وهجاك صاحب يال تونيدا ميل والبودي مقليسان حلي وناكسان أيانو ذلنا حي شركة دور باهنتا افتهان فيديو برودكشن وحي هذا يجر كوسو قد بريسا وركي قدن بي الصومالي يمر حالدها كلا دواني كجرة دالكا يوالي با حالدها سياسة دي إسر الرقية مروا البنا وحبا عصب لقوم الله بتوحي خوري سيدو كلا شركة دو مصميدو دبو ايجيس وحيابا خورا الله صومالي سيدا درتد ما انت معها عصب ودي ارقرو برنامجكي فكر كدقيستها كل وناكسن نجستيال دوني دميل والبودي نجا مقليسان وديار جروبا برنامج كفكر كنجستها أو حط يا جرى إنه كسو قاعد النقطة بحساسية قاعد بدأ مقلي دونتان حل جنا وحى كم ده دجال على صعود حي عيدا مدى ملتري الصومالية يعيدا ما أي تببرين دولة الإمارات كعربتها أو مقدشة كقرحي دجال كاسمحوية هي يود حي يسدو كلفة فاينتي يقدم بيسيد دجال كود حي عيدا مدى ملتري يعيدا ما أي تببرين دولة الإمارات كعربتها أو حل جن دجال كودو وكسرنا magaalada muqdisho waxaynu eegi doonaa dagaalkaasi wuxuu ka dhashay iyo waliba saameynta uu reebay ayaad maqli doontaan intaan barnaamijka ku guda jirno sidoo kale barnaamijka maanta waxaan idin kugu hayaa Cabdiwali Gaas madaxweynaha maamul goboleedka Puntland afar heshiis oo halis ku ah dawladda Soomaaliya ayuu la soo galay Imaaraadka Carabta afartaasi heshiis waxa ku jira in uu xariga u jiro qayre iyo farmaajo waxa uu sidoo kale balan qaaday in ay dhici karto afartaasi heshiis hadii ay hirgalaan Imaaraadkuna ku guuleysan doonaan ama ay kaga guuleysan doonaan dawladda Soomaaliya dantii ay lahaayeen ay sida u fulmayso waxaad maqli doontaan Cabdiwali Gaas qodobada uu la galay Imaaraadka oo halisteeda leh oo ayaanu saaka ku eegi doonaa barnaamijka Rabbi haduu idmo xilligana aad ku maqli doontaan waxaan idin rajeynayaa intuu barnaamijku soconayo waqti wacan iyo dhageysi wanaagsan dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamo ay tababareen Imaaraadka ayaa Muqdisho ka soconaya dagaalkaasi waa mid aad u weyn ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa ciidamada ay tababareen Imaaraadka oo ay dhawaan ka tageen ayuu dagaalkaasi dhexmaraya faahfaahin dheer ayaan idinkaga hayaa dagaalkaasi waxa sababay iyo qasaaraha uu geystay iyo dagaalku sida uu soconayo ayaad maqli doontaan waxaan kaloo idin hayaa hadduu alla idmo intuu barnaamijku soconayo qodobo xasaasi ah oo ku aadan dagaalkaasi waxa dhaliyay waxaad kaloo dhageysan doontaan Rabbi hadduu idmo Cabdiwali Gaas oo afar heshiis oo halis ku ah dawladda Soomaaliya oo ay ku jirto marka koowaad inuu xariga u jaro xukuumadda ay hogaaminayaan Maxamed الله فرماجو iyo ra'iisul wasaare Xasan Ali Qayre ayaad maqli doontaan heshiiskaasi sidoo kula muuqdo ayaad soo gudbi doontaa hadduu alla idmo waxaan u rajeynayaa qof kasta oo barnaamijka dhageysanaya fikirkiisa xura inuu nala wadaago halkuu ku soo diraya fikirka waxa uu ku soo diraya telefoonka hortiina ka muuqda qaybta Fiberka ayaad soo wici kartaa adigoo nala wadaagaya fikirka afarta qodob ee halista ah ee Cabdiwali Gaas uu la soo galay Imaaraadka Carabta oo ay ku jirto inuu kalsoonida u jaro farmaajo iyo Qayre ayaad maqli doontaan afartaasi qodob goordhow ayaanu eegi doonaa hadduu alla idmo balse ku soo dhawaada markan faahfaahin ku aadan dagaal maanta ka qarxay magaalada Muqdisho dagaalkaasi daqiiqado ka hor ayuu dhacay waxaan hayaa faahfaahin ku aadan dagaalkaasi iyo sida uu dhacay goordhow ayaadna maqli doontaan عيبي تعال waxa la yiri ileen adduunyadu marka joogto wax walba ayaad la kulmaysaa sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa soo weeraray xarunta General Gordon oo ay Imaaraadku baneeyeen wuxuu watay shan teknika ah ciidamada xoogga dalka ayuu sargaalkaasi ka tirsan yahay waxa uu doonayay inuu la baxo hub ay Imaaraadku ka tageen oo loogu talagalay in ciidamadaasi ama saanadahooda loogu talagalay inay sii fuliyaan sargaalkan lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa damacsanaa inuu xoog ku qaato hubkaasi yeelay xarunta ciidamada General Gordon waxaana muuqanaya teknikadii uu ku soo weeraray in ciidamadii Imaaraadku ay iska caabiyeen sargaal ka tirsan ciidamada Imaaraadka oo imika toos ugu jira qoraal ahaan ila wadaagaya maadaama amnigiisa iyo waliba nabadgelyadiisa aysan suurtagelin in uu cod ahaan ila wadaago wuxuu yiri sargaal ayaa saaka in soo weeraray magaciisu waa Nuur Dheere wuxuu ka tirsan yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
wuxuu watay 5 technique ah waxaanu doonayay inuu dhaco hubka ciidanka xooga dalka ciidamada imaaraadka dhahdi ay ku kaydiyeen xarunta General Gordon oo ciidamada imaaraadku ay ka guureen waxaan faahfaahin doonaa goordhow laakiin waxaad moodaa in qoraalka sargaalka ay u baahan tahay inaanan toos loo akhri karin waxaan kala jeedaa hal daqiiqo ayaan eegi doonaa sababtoo ah waxa dhici karta sir aynan meediyuhu isticmaali karin oo qoraalka igu soo daro marka maadaama barnaamijkaygu uu live yahay daqiiqad isiya waxaad maqli doontaan iyadoo dhammaystiran sargaalkaasi wuxuu igaga sheekeynayaa dagaalka muqdisho ka qarxay daqiiqada ka hor وياهي سرقال كتر سن عيدا ماذا يتبابرين إمارات كعربتا أو توس قد كيجو جرا أيا وربحين تنكسو حجنا يا دجال حجنا يا نحمري عيدا ماذا ميليتري الصومالية ولبع عيدا ماذا نوحه هجامين يسرقال اللي هذا النور ديره وحو تشن تكنيكا وحو دون يهوب أي إمارات كتجين أو يالي حرونتا جنرال جوردن إنه لبحو أيو ربي شن تكنيكا أيوتي عيدا ماذا إمارات كو أي تبابرين أيا جلب كأودجي وحي إسكعبين عيدا ماذا حوج الدلكا كتر سنة أو نور ديره waxayna badbaadiyeen hubkii ay imaaraadku ka tageen sargaalkan lama oga sababta uu xarunta u weeraray ma haysan warqad ogolaasho ah laakiin ciidamada imaaraadku ay tababareen oo iska caabiyay sargaalkaasi ciidamadii uu watay dagaalka saaka muqdisho ka dhacay ayaan ka sheekaynayaa waxay ii sheegayaan inay hadda ku guuleysteen in qayb kamid ah hubkii uu watay sargaalkaasi ay kala wareegaan shan technique ayuu watay magaciisu waa Nuur Dheere ciidamada xoogga dalka ayuu ka tirsan yahay saaka ayuu xarunta General Gordon weeraray waa xaruntii ay imaaraadku baneeyeen waxa uu doonayay inuu la baxo hub yiilay goobtaasi hubkaasi waxa loogu talagalay ciidamada imaaraadku ay tababareen sargaalkan cid oo amar ka qabo iyo waliba sida ay wax u dhaceen ba sida uu dantiisu ahayd ba lama qiyaasi karayo laakiin wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamadii imaaraadka ay iska caabiyeen ciidamadii xoogga dalka ee soo weeraray danta laga lahaa xarunta iyo weerarka sababta u dhacay saaka dagaalka imaaraadka iyo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka waxay ku salaysan tahay kaliya in la baxo hubkaasi sargaalkuna waxa uu doonayay inuu ciidamadaasi awood ku jiro hal asgari ayaa dagaalkaasi ku dhintay inta aan xogta ku helayo dhaawacuna waa uu farabadan yahay ciidamadii imaaraadku oo tababarana waxay ku guuleysteen ama ay iska caabiyeen ciidamadii shanta technique watay xoogga dalka ka tirsanaa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya wali sargaalka sheekadiisa waa ii socotaa laakiin waxaan diidanahay maadaama uu barnaamijkaygu live yahay sir aanan saxaafada loo ogolayn hadduu qoraalkiisu ku soo daro anna uu carabkayga dafo dhibaato inteeda la egweeyaan barnaamijkan waa barnaamij recordina waa barnaamij ka baxaya channel YouTube ka tirsan iyo waliba Facebook marka qoraalada qaarkood inaan carabkaygu u dafo ayaan ka baqayaa marka hal daqiiqo isiya sheekadu way socotaa wali وياهي سرقالكوا كترسن عيدمada imaaraadku ay tababareen oo hadda xogta ila wadaagaya qoraalkiisu waa u socdaa waxaan rabaa inaan dadka la wadaago inta suurtagalka ah ciidamadii saakay weeraray xarunta General Gordon ee weeraray ciidamadii ay ka tageen imaaraadka waxa hogaaminayay general ka tirsan ciidamada xoogga dalka waa sargaal ka tirsan raadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Nuur Dheere waxa uu soo weeraray xaruntii General Gordon ayuu leeyahay sargaal imaaraadka ciidamada ay tababareen ka tirsan qoraalkan ila wadaagaya toosba ugu jira waxaana ka codsaday dhowr jeer inaan waco laakiin wuxuu u sheegay sabab amaan darteed inuu cod ahaan ay wada hadli karin laakiin waan ka ogolaaday maadaama ay jirto amaan darro ama sharci darro ay noqonayso inuu warbaahinta la wadaago isagoo ciidana sirta ciidamada dawladda laakiin qoraalkan ka aqbalay wuxuu yiri sargaal ka tirsan ayaa saakana soo weeraray ciidamada xoogga dalka magaciisu waa Nuur Dheere waxa uu soo weeraray wiiri xaruntii General Gordon isagoo wata shan technique ah wuxuu doonayay inuu dhaco hub ciidamada imaaraadka loogu talagalay oo imaaraadku uu ka tagay laakiin waan iska caabinay ayuu yiri ugu dambeynna waxa dhacday ayuu yiri in aan ka
awood roorano ciidamada imaaraadka ugu yaraan 1000 askari ayay ka tirsan yihiin ayuu yiri goobta ayayna ku sugnaayeen waxayna ka hortageen ciidamadii kale ee soo weeraro uu hogaaminayay sargaalkaasi wali sheekadu waa ii wadaa ila lagu kalsoon yahay ayaa ii xaqiijiyay ayuu yiri amarkan inuu ahaa amar dawladda Soomaaliya ka soo baxay laakiin ma hubo ayuu yiri goobta ugu dambeyn waxa yimid ayuu yiri General Gorod ayaa yimid goobta uguna yimid ciidamadii goobtaasi hor fadhiyay runtii waxa uu leeyahay in waxa hadda bilaabanaya ayuu yiri in la kala qaado ciidamada laakiin waxa uu Gorod naga diiday inaan uga warrano ayuu yiri sababta naloo soo weeraray maadaama militarigu uu xaq u lahayn ciidamada inuu soo weeraro wuu diiday ayuu yiri General Gorod waa uu diiday inuu naga dhageysto wax hadala waxa hadlaya sargaal kamid ah ciidamada Imaaraadku tababareen Osaka ciidamada xooga dalka Soomaaliya ee weerareen militarigana weeraro yiri markuu yimid General Gorod wuxuu yiri idin kama dhageysanayno وحضله لكن ولي رصاص تلتلا يعني إسرافسنا يوري جنرال كنا مل أيو تاجين هاي وجنرال جوردن وحنا رصاص تاني اسمه دارسنا يوري شن تكنيكا وتصل قال كترسن عيدا ماذا حوق الدولة الصومالية وحقي ورمي ونين كمدا أما عسكري كمدا عيدا ماذا إمارات كساكلا ويري وحوري ويركو نور حيا عنجا إيو نور دير عيدا ماذا حوق الدولة الصومالية أيو كمدي هاي شن تكنيكا يساكن وقصوا ويري وحنا دوني إنه دعاء حب عنجا على اللحين أو إمارات كو إنه تageen wuxuu yiri marka hore dagaalka intuu san bilaaban ayuu yiri wuxuu yiri isdhiiba kadib markaan ka diidnana wuxuu noo xaqiijiyay hadaanan anagu isdhiibin inaan awoodin ku maqooni doono waxaan isku daynay maadaama ka ciidan badnayn ayuu yiri laakiin aanan technique fara badan oo lamida technique-da uu watay aanan haysan ayuu yiri waxaan isku damacnay inaan iska caabino ciidamadii xooga dalka Soomaaliya oo Nuur Dheere watay oo la doonayay ayuu yiri si afgambi ah in lagu qabto hubkana laga dhigo hubkii anaga aan lahayn oo imaaraadku ونوجد تجنا قابت أصيل لقى قاتل لكن وقدام بين ونسكع علينا شن تكنيكا وحقي ورما يسرقال كترسن إذا ماذا إمارات وتببري أو كسوجن حرمتا ساكل ويرري أو إذا ماذا حوق الدولة الصومالية وير كأستهين وقدام بين وحيري إمك وحنا نحتاجنا يوري جنرال كي هو جامني إذا ماذا حوق الدولة الصومالية أو عطسنا يوري هوك إن هوك لديجو أمر رسالة الجوجي مركورة أنا أمريكا رنو إن إذا ماذا حوق الدولة يسكون يبنو ما دام ساك إذا معين tilaab anaga aanan horena lagu sheegin waxaan haysanaa ayuu yiri tababar ka duwan ama waan ka tababar wanaagsannahay ciidamada xooga dalka ee saakana weeraray wixii soo kordha waan ku soo sheegay waa maasantaa sargaalka waxa uu kamid yahay ciidamada Imaaraadku ay tababareen oo saaka ay weerareen ciidamo ka tirsan xooga dalka Soomaaliya goordhow waxaad maqli doontaan wixii ku soo kordha daqiiqad walbana indhaha ayaan ku heli doonaa hadduu alla idmo dagaalka saaka Muqdisho ka socda ciidamo isoo fadhiya ayaa jira risaastu wali way socotaa oo teel ay ciidamada isugu ridayaan generalka ugu sareeyay ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa dhex taagan mana cadda sababta rasmiga ah oo generalkaas ka qaadan doono waa ku soo noqonaya dagaalka Muqdisho balse Cabdiweli Gaas arrin khatara ayuu soo saaray afar qodob ay Imaaraadku Cabdiweli Gaas dusha u saareen afar qodob oo halis ku ah dawladda Soomaaliya وعبدولي جاس مدحوينها بوتلان أفر قضبة وحلسكو دولة الصومالية أي دوش الله صاري إمارات كانوا وحي هذين عبدولي يو حدادا أفر تاسي قضب سمين أنه وحبك وما قوان كارنو أفر تي قضبنا قضب كأقوم مهمسا إنو حركة أجنو فرماجة يقيري وانا أقلادي حتى بقضبة أفرت عبدولي جاس وأقلادي أيانو إيجي دونا قف كستنا حق أيو أولي يهي inuu nala wadaago fikirkiisa ku saabsan talaabaha uu qaadayo Cabdiweli Gaas iyo waliba sida ay kula muuqato haday suurtagal tahay waxaad ila wadaagi doontaa fikirkaaga adigoo codkaaga ii soo gudbinaya insha Allah waxaan rajeynayaa inay noqon doonto mid dhaxalgala taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa meesha jooga ma sha Allah waa ku soo noqon doona dagaalka Muqdisho ku soo laabanaya taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa goobta jooga ma xuma waan ku soo noqonaya Muqdisho iyo dagaalka hadda ka socda laakiin Cabdiweli Gaas ayaan ku hormaraya afar heshiis ayuu Imaaraad kala soo galay waana afar heshiis oo halis ah waxay halis ku tahay dawladda Soomaaliya waxay halis ku tahay farmaajo iyo qayre runtii afartan heshiis ayaa noqonaya afartii heshiis ee ugu adkaa abid oo Imaaraadku ay hor dhigaan
maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya Cabdiweli Gaas waa ogolaaday insha Allah wuxuuna leeyahay afartaasi qodob waxaan u gudbi doonaa maamul goboleedyada kale saaxiibada ila ah waxaana suurtagal ah afartaasi qodob haday maamul goboleedyadu ay wada qaataan mar kale in uu xifaaltan iyo isqabsi u dhixmari doono maamul goboleedyada iyo waliba dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya insha Allah intuu socdo waxaan u rajeynayaa qof walba inuu si degan u dhageysto kadibna uu nala wadaago aragtidiisa ku aadan tilaabaha uu Cabdiweli Gaas qaaday ma ku saxan yahay ma ku qaldan yahay fakarkaaga feebarka ku soo gudbi insha Allah telefoonka hortaada yaala weeyaan waa feebar numberku waa eber 27629245 eber 17 qodobada la hordhigay Cabdiweli Gaas ayaad maqli doontaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu tagay Imaaraadka Carabta sida la socoteen Imaaraadka markuu tagayna warar lagu kalsoon yahay waxa ay xaqiijinayaan madaxweynuhu halka uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya isla markaana kamid ah senatarada dalka sidoo kalena qayb ka ah siyaasiyiinta u dhownduleela Imaaraadka Carabta mudane Umar Abdirashiid Ali Sharmaarke ayaa halkaas ku soo dhaweeyay wada hadallada Imaaraadka iyo Cabdiweli Gaas dhaxmarayna waxa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Umar Abdirashiid Ali Sharmaarke Imaaraadku afar qodob ayuu hordhigay qodobka koowaad Imaaraadku wuxuu madaxweyne Gaas ku taageeri doonaa ama uu gacanta u galiyay lacag fara badan oo doorashadiisa Imaaraadku ay doonayaan inuu ku soo baxo mar labaad doorashada Cabdiweli Gaas mar labaad oo isku soo taagi doono dhinaca Puntland lacag walba oo u baahdo doorashadaasi gacanta loo galiyay odagu wuxuu qaatay boorso lacaga oo ku saabsan doorashadiisa Puntland inuu mar labaad noqon doono madaxweynaha Puntland markii uu doorashadii lacagteeda halkaas dhigtay waxa la yiri afar qodob ku soo dhaw qodobka koowaad Cabdiweli Gaas waxa la yiri xiriirka u jar محمد عبد الله فرماجو iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre dawladda ay hogaaminayaan Cabdiweli Gaas waa saxiixay dawladda Imaaraadka waxay mashaariic ku wareejinaysaa dhammaan mashaariicdii ay Soomaaliya ku lahayd iyo markabka taagan Muqdisho hadda qaadaya sanadaha kala duwan ee Imaaraadku ay lahaayeen waxa la geey doonaa dekada Boosaaso Cabdiweli Gaasna si weyn ugu farxay Imaaraadku waxay yiraahdeen markabka hadda Muqdisho taagan qaadaya sanadaha military iyo waliba tan caafimaad ee laga soo guurayo Muqdisho waxa la geey doonaa dekada Boosaaso markabkaasna Muqdisho ka dhaqaaqaya oo imika taagan yahay oo la saaraya sanadihii Imaaraadku ay lahaayeen wuxuuna toos u aadaya dekada Boosaaso waa qodobka koowaad mashaariicduna waxay noqon doonaan kuwa Boosaaso laga hirgeliyo isla markaana waxa ay xiriirka u jari doonaan Imaaraadka safaarad iyo dhan walbaba ee dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland wuxuu noqon doonaa meesha fariisimaha u noqon doonta Imaaraadka Carabta qodobka wali waa u socdaa qodobkii koowaad waxaana lagu yiri Cabdiweli Gaas mashruucaasi waxaanu ka doonaynaa inaad wakiil nooga noqoto maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya wakiilnimadaasna waxaan rabaa in ay waa sida uu Imaaraadku leeyahay waa inay si toos ah xiriirka ugu jiraan dhammaan maamul goboleedyada oo isku fikir ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisa dawladda Imaaraadka Carabta waxay sheegtay in ciidamada jooga Puntland sanadahooda hubka loo dhameystiri doono lagu wareeji doono tababar aad u dhameystiran isla markaana ay iska caabi karaan ayay Imaaraadku yiraahdeen meel walba laga soo hujuumo waxaana loo balan qaaday Puntland inay noqon doonto maamulka ugu awoodda badan ee Soomaaliya ka jira ee u babac dhigi kara xitaa dawladda dhexe ee Soomaaliya Cabdiweli waa uu ku farxay qodobka kale dhammaan maamul goboleedyada waxa ay la geli doonaan heshiis yaa la gelaya Imaaraadka Carabta dhammaan maamul goboleedyada heshiis ay la galayaan waxayna noqon doontaan heshiiskaasi maamul goboleedyada la gali doono mid ay aabba iyo hooyo u tahay Puntland ayaa hooyo iyo aabba u noqon doonta dhammaan mashaariicda isugu jira maalgashiga xiriirka guud ee ku aadan ciidamada iyo waliba in la sameeyo dhaqaalo maamul goboleed kastaba oo isku haleyn karo oo kaga maarmi karo in dawladda Soomaaliya ay u soo marto dhaqaalo walbaba waxa loo balan qaaday maamul goboleedyadaasi dhamaantood in ay heli doonaan mashaariic aad u xooggan laakiin Puntland ay noqon doonto hooyada hagi doonta amuurahaasi waa ayna ku farxeen Cabdiweli Gaasna waa uu ku farxay wuxuuna balan qaaday inuu u gudbi doono saaxiibadii maamul goboleedyada oo
isagu u yahay madaxweynaha guud ama madaxweynaha hogaaminaya maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya Cabdiweli Gaas iyo imaaraadka sheekadu dhaxmaraysa sheekadu wali waa socotaa dhammaan maamul goboleedyada mashaariicdaasi ayaa la sii doonaa sidoo kale waxaa jiri doona dhaqaalaha dawladda imaaraadka ay siinayso Puntland waxay si xawli ah u socon doonaan oo aan dhamaystir lahayn sanadaha 2018 iyo 2019 mashaariicdu si isdaba jooga ayay u heli doonaan Puntland waxay kale Puntland heli doontaa sanado military oo dhanka ciidamada Soomaaliya ciidamada Puntland ee Soomaaliyeed la sii doona tababar caalami ah la sii doona waxayna mashaariicda koowaad ay ka bilaaban doontaa magaalada Boosaaso iyadoo magaalo walba oo kamid ah dalka Soomaaliya kamid ah maamul goboleedyadana la gaarsiin doono wuxuu Cabdiweli Gaas ballan qaaday marka koowaad in uu ku laabto Puntland kadibna uu xiriirka u jari doono dawladda dhexe ee Soomaaliya wuxuu kaloo ballan qaaday in markii uu ku laabto Boosaaso ama magaaladiisa Garowe ama guud ahaanba Puntland ba inuu u yeeri doono madaxda maamul goboleedyada kadibna uu mid uga dhaadhici doono siyaasadda imaaraadka ay ku maalgelinayso geyiga Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada iyo waliba si isku mid ah inay warqad u soo saaraan warqadaasi oo xiriirka loogu jarayo dawladda dhexe ee Soomaaliya warqada waxa si gaar ah ugu xusan in wareegta ka soo baxda wasaaradda arrimaha dibadda ama uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku dhawaaqo inaysan marnaba ka hirgeli karin maamul goboleedyadaasi waxa uu sheegay inuu ku laaban doono halka kadibna uu mashaariicdaasi u bandhigi doono saaxiibadii si isku mid ah xiriirka loogu jari doono dawladda federaalka Soomaaliya haddaba dhageyste sideed u aragtaa dhaqdhaqaaqa Cabdiweli Gaas oo imaaraadka ka wado qodobada la hordhigay jawaabaha uu ka bixiyay ma kula saxan tahay ma kula qaldan tahay intaba waxaad ku soo gudbi kartaa Februarka hortaada ka muuqanaya muhiimadda guud ee imaaraadku leeyihiin waxay tahay Soomaaliya in mid loo kala jaro mar kale dawladuna ay sida ku fashilanto waxa kale oo maqli doontaan wixii ku soo kordha dagaal Muqdisho ka socda dagaalkaasi oo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba ciidamo imaaraadka uu uga tagay Muqdisho hubkii ciidamada ay wateen ay saaka doonayeen inay hubka dhigis ku sameeyaan laakiin xerada General Gordon ay hadda sawirro laga soo qaaday sawirada waxa ay muuqanaya xerada General Gordon oo warar dheeraadana ay ka soo baxayaan laakiin intaan indhaha ku hayo waxaan guda gali doonaa telefoonada iyo dhageystayaasha Cabdiweli Gaas fakarkaaga xor baad u tahay barnaamijku waa barnaamijkii fikirka dhageysta salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا صدقوا أديكم مهتسن سداد واركتا قضبضة وعبدولي قاس مدحونها بطلان ولقى إمارات كعربتا أو كأدن مركز كوادين وحرير كأجر الدولة الصومالية مركز لبعض إن مشاريع كل الدول إمارات كوكير جليو معمول قبل ذي الدلك كجرا إسناء وجروادين النقطة سداد واركتا أديكم حر وأفكر كاجا. بلوان واقع سلامي أبي وأغيار كرا ونبي سنيسة. dhageyste haday suurtagal tahay adiga iyo dadka kula joogaba waxa ka qayla dheer dadka agtaada jooga marka suurtagal haday tahay si gooniya meel ugu bax si aan codkaada u maqalno waan kugu soo noqon doonaa sidaada qadka ugu jir laakiin buuqa ku jirta darteed lama hadli kartid barnaamijka dhageyste kale ayaan siinaya laakiin adigu qadka ku jiraysa kama jarayo salaamu calaykum salaamu calaykum allo salaamu calaykum dhageystaasi ma maqlo وكسر نقرأ ديستي هراء السلام عليكم. هلاو. وي هاي ديستاسني ما مقر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ديستاسني ما مقر وي هاي ولي برامج كي أنو كوجود جرنا ديستو والبنحر وحويه هاي ركتيس إنه كقيم قاطو وحنوجد بيا لما ديست ما دام يمقل وين ديستاس الدحادة قد كوجرا. السلام عليكم. السلام عليكم دغيستاسنا كل ayaa soo galay markii qadka uu soo galay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة hadda ma maqshaan صافي soo dhaw aragtidaada ku aadan ra'iisul wasaare madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Gaas afar qodob ayuu la soo galay imaaraadka carabta qodobadaasi waxa kamid ah inuu xiriirka u jiro dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu kale uu yiri ama imaaraadku ay yiraahdeen waxaan ku siinaynaa lacago aad adigu ugu guuleysato Puntland mar kalena madaxweynaha Puntland aad noqoto dawladda imaaraadku waxay mashaariic ka fuli doontaa dekada Boosaaso iyadoo markabka saanadaha kala duwan ka soo qaadaya Muqdisho dekada Boosaaso uu tagi doono maamul goboleedyadana ay noqon doonaan kuwa ka maarma dawladda Soomaaliya lagana codsaday imaaraadkuna uu ka dalbaday inuu xiriirka u wada jiraan si isku mid ah Cabdiweli Gaas ayaana balantaasi soo qaaday sideed u aragtaa xumahay dhaystaasi
kol ayaa soo galay marka uma suurtagelayso magaalada muqdisho warar dheeraad ayaa waxay kasoo baxayaan dagaalka u dhaxeeya ciidamo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta iyo waliba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xerada imaaraadku uu ka guuray la yiraahdo General Gordon ayuu dagaalku imika toos uga soconaya iyadoo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay gaareen waliba militariga Soomaaliya ayaa gaaray dagaalkan ayaa warar laga helayo waxay sheegayaan inuu salka ku hayo sargaal ka tirsan ciidamada militariga oo isku dayay inuu gawaari gaashaaman xoog ugu galo xarunta imaaraadka ee xeradaasi ay ku leedahay ama imaaraadku ku laan jiray laakiin hadda ka guuray dagaalka ayaa imika wuxuu u muuqanayaa inuu ku fiday xaafado ku dhow xarunta dagaalka marka hore uu ka socday agagaarka kulliyadda jaalisiyaad iyo warshada caanaha walibana lama oga qasaaraha rasmiga ah uu dhalin karo dagaalkuna imika waa uu sii xoogaystay dagaalka muqdisho hadda ka socda waxa uu noqonayaa dagaalkii ugu baxada weynaa ciidamada dowladda ka tirsan iyo kuwa uu watay generaalkii ama sargaalkii weeraray xarunta General Gordon hadda xaafada ka tirsan magaalada muqdisho ayuu ku sii fidayaa wixii ku soo kordha waad maqli doontaan intaan barnaamijka ku jiro laakiin Cabdiwali Gaas iyo qodobada dhageystayaasha halaw salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأخو سلامي بلوان أبي وأصحاب كلا دقيستياشا waa ka qaaday soo dhaw aragtidaada ku aadan Cabdiwali Gaas qodobada waliba qaarkood halisa oo la soo galay imaaraadka carabta oo ka dhana dowladda Soomaaliya sideed u aragtaa fikirkaas ani ma soo dhaweynayo mana qaba mana la geli kara maam Cabdiwali waa nin u taliya Puntland waa maamul goboleed ma ahan dowladda Soomaaliya أنت وحدي كرا وحي سوكر نيس ملهن مهمنا وملها شعب كبوتلان مغرب waayahay laakiin hadii Puntland la horumarinayo hadii Puntland laga dhisayo qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha hadii Puntland ciidamadeeda la dhisayo maxaa ku jaban in dowladda Soomaaliya laga maarmo wada saxan ayaa loo soo mari karaa oo loo soo mari karaa dowladda Soomaaliya loo soo mari karaa ma ahan in la dhiso maamul ama maamul goboleed marka arintaasi waxaan dhihi karaa waa arrin riya ah mana dhacayso oo ogtahay in Somaliland mandate ay dhahan heshiisyadii la gaaray ma aqoonsanin midnimada Soomaaliyana waa tirsanahay ay dhahan marka waxaan dhihi karaa arintaas arrin dhacayso ma waa arrin hadda uu hadal la iska yiri saasan u arkaa mid Cabdiwali aad sidoo kale sideed u aragtaa dagaalka hadda ka soo cusboonaaday magaalada muqdisho oo ciidamo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa imaaraadku uu tababaray laakiin uu uga tagay General Gordon oo la leeyahay hadda wararku waxay sheegayaan in xaafado ku dhow xeradii General Gordon uu dagaalka ku fiday dagaalkana wuxuu ku dhow yahay ayaa la yiri inuu sii xoogaysto maadaama xaafadaha sida Taraboonka agagaarka kulliyadda jaalisiyaad iyo warshada caanaha wali lama oga qasaaraha rasmiga laakiin dagaalku halka ayuu ku sii fiday wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada xoogga dalka iyo ciidamo ay tababareen imaaraadka carabta oo muqdisho jooga sideed u aragtaa balwaan arintaas ayada arin xaqiiq ah maahan arin lahuba maahan dhihi karaa waayo laba ciidan meel ka tirsan oo dowladda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed in la dagaalayaan ciidan kale oo Soomaaliya waxay la dagaalayaan imaaraadka carabta waa ognahay waxay ka baxeen maalin hore ka baxeen shalay waa ogtahay in lagu xerada lagu wareejiyay askar ka hadlaysay oo dhaayeen aad u dhaweynayna maadaama la tababaray waxaan diyaar u nahay inaan difaacno dalkeena iyo dadkeena iyo diinteeda warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalku hadda ayuu muqdisho ka socdaa shalay maaha daraado dhacay maaha saako dhacay maaha xilligan ayuu dagaalku ka socdaa xerada General Gordon dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa ciidamo military ah oo xarunta soo weeraray oo doonayay inay la wareegaan hub ay ka tageen imaaraadka dagaalku waxa laga helayaa warar kala duwan ciidamada militariga gawaari gaashaaman ayay wataan xarunta ayay isweer ka hayaan imika ayay muuqanaysaa sawirada iyo muuqaalada laga soo duubay oo xilligan dagaalku uu ku fiday xaafado ka tirsan Taraboonka agagarka kulliyadda jaalisiyaad iyo warshada caanaha oo imika dadka ku sugan ay xitaa qaarkood ay qoraal ila wadaagayaan sawiro iyo muuqaal ayaana laga soo duubay dagaalka xilligan ayuu socdaa shalay ma dhicin daraadna ma dhicine sideed u aragtaa dagaalka arinta ayada hadda mar hore waa u sheegay horta wadankan hal madaxweyne uu leeyahay ciidankan waxay imaaraadka ay tababareen waa ciidan ee Soomaaliya u deeqayaan ma ahan ciidan ayaga intay tababareen meel u joogo oo inay qalalaase ay ku abuuraan ay u tababareen ninka markuu ciidanka uu leeyahay uu washaa ognahay la soconaasha lama dhihin aan dagaalka warunta sala ma dhicin laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa mid taagan sala marka arinta ee ciidanka waa la wareejiyay maanta waxaan dhici karnaa ciidan shala diyaar ah inay wareegaan diyaar ah maanta tababar iyo gudood ma keeni karaan marka waxaan dhihi karnaa arinta ayada arin lahuba maahan arin hadda oo sal maahan hadday dhacdana arinta ayada
هذه وعندي كرا وأرن إمارات أي ربان ولي قد إمارات أنت وضن كأنه بدرسنا وهي وجرين إن أي وضن كأي جميس كويسان ما كأرن أيضا عندي كرا وحوين ما أيضا يورو مالو توبرنا هذا تعذير الوصول كوب كرا وحس وحوين ما إمارات عندي كرا وحول بجيد والبقى فلان وحول بس كده لكن هذا مدة تاجن عندي كرا وأرن فشل معيان مالو بنا بس قلنا waayahay laakiin waxa dagaalamayo imaaraad maaha waxa dagaalamayo waa ciidamo ay tababareen maxay tahay mabda'a ciidamadan ay tababareen oo maanta Muqdisho ay kula dagaalayaan ciidanka xooga dalka Soomaaliya maxaa ku soo beegay xilligan ciidamadu inay dagaalamaan ma muuqata in ciidanka xooga dalka ay doonayeen inay boob ka geystaan xarunta xirada General Gordon waayo sarkaal ka tirsan ciidamada imaaraadku ay tababareen ayaa saaka ii waramayay wuxuu ii sheegay oo qoraalkiisa aan dadka la wadaagay xilli dagaalka uu wali soconayo wuxuu ii sheegay in ciidamadu ay doonayeen si afgambi ah inay xerada kula wareegaan marka yaa laga gardaran yahay marka ciidankii imaaraadka oo xeradiisa jooga shalay ku dhawaaqay sida aad sheegtay inay yihiin ciidamo Soomaali ah diyaar u yihiin inay ciidamadaasi jiritaanka Soomaaliyeed kor u qaadaan maanta bal hadii lagu yiri hubka dhiga oo lagu yiri amar baa yimid hubka dhiga yaa iska la gardarada لما دي كرا عيدن كاسوب كديغا شرع ayaaba laga wada hadlay shalay markii ay imaanayeen way arkaysa hadda ka muuqatay duwayn sharci dadka soo dhaweeyeen ma aan ciidan kala ma dhigay horta ciidan imaaraadka lama dhigay ciidankan ciidan Soomaaliyeed way tababareen way ka tageen hadda qalabkan la wareejinayeen ciidankaas ma dejin karaan oo ma dhigi karaan waa difaacanayna waa qalab ayaga loogu deeqay oo dawladda loogu deeqay ma aan qalab ayaga iska leeyihiin taliyahooda waxa ku filan in taliyahooda kaliya inta lala hadlo diiraa waa la wada heshiyo diiraa saab soo ciidan kana ma aan leeyahay idin kubka dhiga iska baxa ma aan ayagoo tabtaas aan soo wareejinaya ciidanka lagu dhaxdaraya waa la mideynaya waa wax aad iyo sagmaad waxaan dhigi karaa arinta ayada hada arin jirta ma aan jirtana waa arin aan soo gabagaboobi karta mar walba qalad waa dhici karaa ciidamada dhexdooda qalad waa ka dhici karaa laakiin waayahay aad baad u mahadsantahay aragtidaada saliimka ah dhageysta kasta xor ayuu u yahay aragtidiisa inuu nala wadaago laba qodob ayaa miiska saaran dagaal ayaa Muqdisho ka socda dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa ciidamo ka tirsan imaaraadka carabta oo tababaray iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliya dagaalka imika wuxuu ku xoogeystay qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamada militariga ciidamada imaaraadku ay tababareen ay sheegeen inay yihiin ciidamo Soomaali ah waxaan idin maqashinayaa shalay ciidamada hadda xoog gal fiiri Soomaaliyeed ciidamada xoog dalka Soomaaliya maanta waxay weerareen ciidamo ay tababar u fidiyeen imaaraadka carabta ee ku sugnaa General Gordon xerada uu ku leeyahay ama xeradii General Gordon ee magaalada Muqdisho waa la barneeyay imaaraadku ay ka tageen shalay ciidamadu waxay la wadaageen warbaahinta fikradooda waxay yiraahdeen anagu imaaraad ma nihin waxaan nahay ciidamo Soomaali ah maanta ciidamadii xoogga dalka waxay damceen inay ciidamadii weeraraan oo yiraahdaan xoog ku dhiga hubka dagaalku marka saas ayuu keenay waxaan idinku wareejinayaa shalay ciidamadii imaaraadku ay tababareen ee maanta la dagaalamaya xoogga dalka Soomaaliya shalay fikradda ay aaminsanayeen ayaad dhageysanaysaan maanta sababtii loola dagaalana idinkan idinka doonaya bal shalay imaaraadka carabta ciidamadii oo tababaray ee maanta xoogga lagu dayayo shalay sidan ayay dhahayeen maantana waxa la leeyahay Soomaali ma tihiin waxaad tihiin dad gumaystayaala waad edabtarantiin hubka dhiga bal fiiriya fakarka ay aaminsan yihiin ciidamada saakala weeraray annagoo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka tirsan annagoo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka tirsan dugsiga tababarka General Gordon waxaan diyaar u nahay xoogga dalka inaan difaacno waxaan kaloo diyaar u nahay inaan shaqeeyno hadduu imaaraad baxay annagu imaaraad ma nihin waxaan nahay Soomaaliya ciidanka xoogga dalka waayahay ninkan wuxuu leeyahay anagu imaaraad ma nihin waxaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyana intay militarigu weerareen ayay yiraahdeen Soomaali ma tihiin hubka dhiga bal fiiri Soomaaliyeed ninka xabadda lagu ridayo waa nin aaminsan fikradan mar kale ku celi waa asgari ka tirsan ciidamada imaaraadku ay tababareen ee saaka la yiri Soomaali ma tihiin hubka dhig waxa tahay xaraaga gumaystaha imaaraadka hubka dhig muxuu aaminsan yahay sarkaalka sida la leeyahay annagoo ka tirsan ciidan rale hada xoogga dalka Soomaaliya oo ka tirsan dugsiga tababarka General Gordon waxaan diyaar u nahay xoogga dalka inaan difaacno waxaan kaloo diyaar u nahay inaan shaqeeyno hadduu imaaraad baxay annagu imaaraad ma nihin waxaan nahay Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan waayahay nin aaminsan ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ahay
haddii lagu yiraahdo Soomaali ma tiida hubka dhig waa culays inteeda la eg waana sababta kaliftay dagaalka saaka Muqdisho ka socda ciidamada xoogga dalku waxay yiraahdeen adeero idinku Soomaali ma tiidiinba gabiginba waa ciidamada General Gordon ku jira ee Soomaaliyada la tababaray waxa la yiri maxaa kalifay dhinac kamida inaad calanka Imaaraadka aad qaadataan hubkiiba laga dhigaya waxaana la yiri gabiginba dawladda Soomaaliyeed lid ku tihiin marka asgari ka tirsan ciidamadaasi saaka la weeraray wuxuu yiri war annagu Imaaraad ma nihiin Soomaaliya nahay bal mar kale dhageysta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka tirsan dugsiga tababarka General Gordon waxaan diyaar u nahay xoogga dalka inaan difaacno waxaan kala diyaar u nahay inaan shaqeeyno hadduu Imaaraad baxay annagu Imaaraad ma nihin waxaan nahay Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan laakiin saaka waxa la yiri Soomaali ma tiidiin waxa tiin dad hara ah oo gumeystihii Imaaraadka ka haray salaamu calaykum wa calaykum salaam walaal soo dhaw aragtidaada laba qodob ayaa isdul saaran qodobi waa Cabdiwali Gaas oo heshiisyo halis ku ah dawladda Soomaaliya la soo galay Imaaraadka Carabta waxa kamid ah xiriirka u jiro waxa kamid ah sidoo kale in maamul goboleedyada ay u midoobaan sida dawladda Soomaaliya uga madax banaanaa lahaayeen markabka sanada ciidamada militariga ee Imaaraadka wada sidoo kale macallimiintii tababarka waday sidoo kale wax walba oo Muqdisho ka yeelay lagu rarayna waxa la yiri Muqdisho ka baxaya wuxuu tagi doonaa Boosaaso marka hore sideed u aragtaa heshiiska dhexmaray Imaaraadka iyo Cabdiwali Gaas marta Cabdiwali Gaas wadanka madaxweyne kama ahan Cabdullaahi Mufahad aad marka see u aragtaa marka fikirkaas powerka fikir qaldan aad weyn muxuu ku qaldan yahay wuxuu ku qaldan yahay in aad wadanka madaxweynihii iyo wadanka inaad ka hor imaato waa qalad horta maamul goboleedyada waxa lagu qaldo waa maamul goboleedyada Mufahad haye marka Cabdiwali Gaas asiga wax uu sameey karo ma jira meeshan baarlamaan jiro baarlamaanka waxay ansixiyaanna kama hor imaan karo Mufahad waayahay marka sidoona uga hor imaan kareen dawladdu waa federal waana maamul goboleed kasta waa madax banaan yahay wuxuu u madax banaan yahay sida dastuurka ku qoran in kastoo dastuurkiiba lumay laakiin dastuurka lumay waxa ku qornaa in ay maamul kastaba uu xaq u leeyahay inuu danta dadkiisa iyo dalkiisaba u ka hadlo marka Cabdiwali Gaas wuxuu leeyahay dalkayga Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya wax walba oo dawladda loogu deeqo wuxuu yiri anaga ima soo gaaraan oo maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wax kastaba caasimadii Soomaaliya ayaa liqay anaga waxna soo gaar ah ba yaraatay ma jirto marka miyaanan dastuurka aynan ku qornayn nin kasta inuu u madax banaan yahay maamulkiisa dastuurku way ku qoran tahay balse waxa jiro macnaha wax oo ka hor imaanaya lid dadka shacabka dadka Soomaaliyeed aan dan u ahayn Mufahad haye marka aniga ilaamaan Cabdiwali Gaas arintaas inuu ku dhaqaaqi karo awooddaas inuu leeyahay heerkaas gaarsiisan ma garat haye bal haddii uu ku dhaqaaqo oo ay dhacdo ilaan hadda heshiisku waa dhacay wuxuu ku soo noqon doonaa Puntland wuxuu la wadaagi doonaa saaxiibadii maamul goboleedyadii ka jira dalka Soomaaliya maxaa imaan kara hadday isku raacaan inay go'aan ka qaataan dawladda Soomaaliya markabkiina uu aado Boosaaso la maalgeliyo dekedaha Kismaayo Boosaaso Baraawe Hobyo iyo waliba maamulka kale oo dhulka loo marsiin doono wixii loogu talagalay maadaama dekad iyo bor oo lahayn maamulka Hirshabelle markaas waxa imaan kara waa shacabka horta marka koowaad meeshan shacabka Cabdiwali Gaas hadii ay ku taageeraan shacabka reer Puntland macna awood u yeelanaya ma garat haye laakiin hadday ka hormaadaan wax awood ma yeelan karo awooddaasna macnaha ma sameey karo marka wax walba shacabka ku xiran tahay horta shacabka Puntland waa inay dad isku xiran ay noqdaan in arintaas ka dhiidiyaan Mufahad waayahay marka dawladda Soomaaliya maxaa la gudboon mar hadii dawladdu go'aanka markay qaadanayso maamul goboleedyada kala ma tashato sida dawlad walba oo federal ahna sharcigu wuxuu farayaa go'aan walba ee dawladda dhexe ay qaadanayso inay u gudbiso maamul goboleedyada kale tusaale Imaaraadku wuxuu caawinayay ciidamada Puntland haba yaraatay laguma oran waan ceerinaynay ogaada marka ma muuqataa sida fikradaada ay kula muuqatana waad ii sheegi doontaa dawladdu ay ku fududaatay in ay xiriirka u jarto Imaaraadka maadaama aysan kala tashan maamulka Puntland horta dawladda macnaha wixii danteeda anaga horta shacabanahay wixii danteeda dawladda iyada oo iyada wax walba nooga xoog gaarsan ma garata Cabdullaahi aadiyad balse fikirkeygu wuxuu leeyahay aniga Imaaraadka Soomaaliya wax weyn bay u qabteen dhowr sanana way caawinayeen balse ilaa ma ahan arintan arin qosayso arinta Puntland iyo Soomaaliya arintan waa arinta Somaliland
وياهي أدو ما سنتهاي وقدامبين دجال أي حدا وحكي صعدا حرونتا جنرال جوردن أو إمارات كعربتو أي كجورين إذا ماذا سيوحوا حيا إذا ما وتببري إمارات كا لكن لجيري هوب كرنيجا ما دام أي هيستان تببر الدولة الأميسية هنا عدو كتاي الصومالية إذا ماذا ساكا ورري حرونتا جنرال جوردن waxay damceen inay hubka ka dhigaan oo hubka ay la wareegaan laakiin arintii dagaal ayay sababtay dagaalkuna waxa uu ku fiday qaybo kamid ah xaafadaha ku dhadhow xarunta saaka dagaalka uu ka dhacay waxa kamid ah xaafadaha dagaalka uu ku fiday xaafadaha ee kala ah Tarabuunka agagaarka kuliyada Jaalasiyaad iyo waliba warshadii caanaha dagaalka waxa suurtagal inuu sii balaarto sideed u aragtaa dagaalka Muqdisho ka soo cusboonaaday saaka horta arintaas aad u weyn waa la socdaa waana akhriyay waana arkay meel badan waan ka akhriyay balse waxaan doonayaa Cabdullaahi inaan ogaado ciidamada Imaaraadka aniga gabi ahaan waxaan qabaa in la kala diro loona kala diro ciidamada furunta jira ilaa iyo gobolada la geeyo ma garato haye gabigoodana laga saaro magaalada Muqdisho waxa military sheegto dhanba hatta Imaaraadka kuwala kulli laakiin ciidamadu waxay leeyihiin Soomaaliya nahay codkiisa askari kamid ayaan hadda daayay oo le anigu Soomaali baan ahay marka nin le anigu Soomaali baan ahay Imaaraad ma ihi hadii la yiraahdo dulli baa tahay Imaaraad tahay hubka dhig maxaa ka soo dhici kara sax ima fahmin waxaan ku dhahay ciidamada aniga qoryaha laga dhigo kumali balse ha laga saaro magaalada Muqdisho caasimada dhammaan wixii military sheegto ma ala kuwa Imaaraadka hana la geeyo meelaha dagaalada ay ka socdaan sidii al-shabaab meelaha ay joogaan gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe kala ma garat laakiin ciidamada xoogga dalka saaka sida ma sameeyeen waxay yiraahdeen hubka dhiga waxa tiin haraaga gumeystaha marka asgari ka tirsan dawladda Soomaaliya in la yiraahdo gumeystii baa ka dambaysa hubka dhiga sideed u aragtaa anigu taaban ku weydiiyay taa waa qalad Cabdullaahi maana waa Soomaaliyeed hadalkiisana waan dhageystay askarta Imaaraadka waan dhageystay hadaladoodii ma fahamtay haye waana dhalinyaro Soomaaliyeed waana ciidan Soomaaliyeed وانا قالت إن الويرا واللي ماشي حسوق كذا أنا وحمل سلكة جرنال كوكو سريع إذا ما الميليتري الصومالي ما فهمت aad iyo aad ma santahay fakarkaaga saliimka waa kaaga mahadcelinaya laba qodob ayaa miiska saaran maanta qodobku waa dagaal imika ka socda Muqdisho dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamo Imaaraadku ay tababareen iyo waliba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dagaalku aad ayuu u fiday xaafado ku dhadhow xarunta General Gordon ayuu ku fiday sababta dagaalka keentay militariga Soomaaliya ciidamadooda ayaa waxay weerareen xarunta oo Imaaraadka ka guuray waxay yiraahdeen saaxiibayaal idinka dhanba Soomaali ma tihiin hubka dhiga waxa tiin haraaga gumeystihii Imaaraadka ciidamadii Imaaraadku ay tababareen saaka markay dagaalamayeen waxay ku dhawaaqayeen annagu Soomaaliya nahay Imaaraad ma nihiin faraha naga qaada ugu dambeyn waxa la isku dayay in xoog lagu maquuniyo ciidamadii waa iska cabiyeen waxa lagu weeraray technique fara badan waxa ii muuqanaya hadda oo aad idinkuna ka harka kartaan warbaahinada ciidamo isweer ka haya xaruntii ciidamaduna waa ay dagaalamayaan ciidamadii Imaaraadka uu tababaray marka waxaan ka doonayaa dagaalkaasi sidaad u aragto waxaan kaloo ka doonayaa fikradda dagaalka lagu qaaday inaad ka tiraahdo 2 iyo 1 hadba sidaad adigu u aragto dhanka kale afar qodob ayuu Cabdiwali Gaas la saxiixday Imaaraadka Carabta qodobada uu la saxiixday waxa ku jirta in xiriirka loo jaro dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay hogaaminayaan sidaad u aragtaa qaybta siyaasadda Cabdiwali Gaas labadaasi qodob ayaan ku weydiin doonaa insha Allah qof kasta oo ii soo qoraya isoo qabo anigu dadka Sooma qabtay feebarkaasi laga soo wacaa feebarka idin hor muuqda aniga maxaan u soo qoray feebarka waxaan u soo qoray qofkii inuu soo waco ma aha isoo qabo inaad ii soo qorto barnaamijkan waa media idaacaduna dadka ma wacde iyada la soo waca marka waa maasan tahay feebarkaasi igala soo xiriir haduu alla idmo sawirka dushiisa ku qoran salaamu calaykum dhageysteen وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته آدي آذان عبد الله والسلام يا ولال ka qaada mid talamidan hawada ku soo marinaya soo dhawow Cabdiwali Gaas afar heshiis oo dawladda Soomaaliya ay ka dhidhisay ayaa la hordhigay heshiiska koowaad waa inuu xiriirka u jira heshiiska labaad waa inuu soo xiriir maamul goboleedyada oo ay u midoobaan sida ay uga soo horjeeysan lahaayeen dawladda dhexe ee Soomaaliya sidaad u aragtaa والله marka hore Cabdullaahi maamul goboleedyada waa wada ognahay Cabdullaahi waxa lagu wadi jiray si xeer hoosaadya ah iyo maxay ahayd iyo bariya lagu wada jiray waligood waa la ogyahay maamul goboleedyada waa caqabada kaliya hadii marka dhinaca kale aan soo noqdo ay dawladnimada Soomaaliya ay sida dhabta ugu istaagi laadahay horta taasaan kale anoo Ilaahay dartiis u hadlaayo ma rabo in aan u hadlo si oo anigu mucaarad aan ahay laakiin marka aan macnaheeda ma aha inaan xaqiiqada Ilaahay ka fogaado haye maamul goboleedyada especially maamulka Puntland wuxuu ahaa maamulka kaliya wax kasto madaxweyne Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed meesha ay ka socon laadahay lugaha ka hayeen waligood haye
taas waa xaqiiqo haye xaqna uma lahan inuu la soo saxiixdo contribution wadan kale bacdama wadanku uu yahay uu dawlad leeyahay waxyaabaha aysan xaq u lahayn ay kamid tahay dawladda dhexe xuduudaha baasaboorada militariga waxyaabahaas saxiixiyada contractiga oo wadamada shisheeye dawladda dhexe in looga dambeeyo ay xaq loogu leeyahay laakiin waxa la leeyahay dastuurka waxa ku qoran madaxweyne kasta oo maamul goboleeda inuu danta dalka iyo dadkiisa wax u qabto isla markaana dawladdu dastuurka waxa ugu qoran haday go'aan qaadanayso inay la tashato maamulada hoos yimaada mar haday dawladdu kala tashan weyday sheekadii imaaraadka carabta sidoo kalena imaaraadku uu gacan weyn siinayay maamul goboleedka Puntland maxaa u diidaya inuu Cabdiweli Gaas danta dalka iyo dadkiisa ileen waa uu dhaartiisa waxa dhageysanayay dad isugu jira indheergarad culimo u diin aqoon-yahano dhalinyaro haween oo reer Puntland marka in wax loo qabto dadka oo dhaartii laga rumeeyo yaa diidaya may waa xaqiiq horta dadkaas inuu wax loo qabto cid diidaysa malaha waa in wax loo qabto waana ognahay imaaraadku gafku DBG gashay hadii laga reebo oo iyo hadallada media ay ku hadashay oo aad u xaraaray oo macnaha Soomaaliya maxay ahayd madax banaanideeda wax meel uga dhaceysay hadii laga reebo imaaraadku inay wax badan u qabteen dawladda Soomaaliya wax badan caawinayso waa ognahay taasraay sax waaye midda kale qodobka dastuurka ku qoran anigu ma ogi dastuurkana ma akrinin hadii ay dastuurka ku qoran yahay oo xorriyad buuxda siinaya maamul goboleedyada marka xaq uu leeyahay qof walba inuu meesha rabo la soo saxiixdo taas waa goonideeda anu midaan ka hadli kara ma ah laakiin hadda dastuurkii waa lumay mar hadduu dastuurkii lumay oo inoo sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimihii baarlamanka oo yiri dastuurkiina waa lumay hadda laakiin dastuurkii loo noqon lahaa oo ay dawladda iyo maamul goboleedyaduba ay ka wada hadli lahaayeen waa lumay marka dastuur lumay iyo go'aankan haddii la isku keeno maxaa la filan karaa horta waxyaabaha aan la yaabay kamid tahay waxyaabaha dawladda nabad iyo nolol waxyaabaha aan ka dhaxalnay kamid tahay in askar dhahayso wadanka aniga waxaan u dhaartay anigu imaaraad miyi anigu xoogga dalkaan ahay anigu waxaan rabaa inaan dalka iyo dadka u shaqeeyo in la weeraro maanta weliba anigu sida xodogaal aan u ahay aan maqlay xalay go'aankaas inuu caanood qaatay inuu nimankaas weeraro go'aankiisana uu yahay nimankaas inuu hubka ka dhigo xeradaas ka baneeyo ciidankaasna la kala diro wax la dilo iyo wax xabsi la dhigo iyo wax qoriga laga qaado ayaa laga dhigi doonaa ciidamada meel walba laga wacay waa ku sii kordhaya ciidamada lagu sii kordhinaya nimankaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha badbaadiyo waa dhalinyaro Soomaaliyeed raali kama nihin in la laayo waa waxyaabaha ay dawladdu ku guul dareysatay kamid tahay ciidan la tababaray imaaraadka ma aha wiilashu imaaraad ma aha wiilashu waa wiilal Soomaaliyeed waayahay sheekada imaaraadka waan usoo noqonaya weli waxay ii taagan tahay arrintan Cabdiweli Gaas dawladdu hadday Cabdiweli Gaas hadal ku diidi lahayd waxa loo wada noqon lahaa dastuurkii oo la dhihi lahaa dastuurka Cabdiweli Gaas uma baneynayo inuu sidaas sameeyo laakiin dastuurkii baa lumay sidee loo xalin karaa ama la isku fahamsiin karaa maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya in dastuurkii loo noqon lahaa waxa la yiri waa la xaday waa lumay meel uu cirib iyo jaan dhigana lama hayo أول بتستور ماشي اللي جمهني وحنا اللي صاح حريقي أو أنت أو اللي صار دوبي أو وحي لربو لقد بدلوا هلا أو وحي لربنا اللي قدروا هاي أول بو لكن وحيا ياب للتستور كسيدو كلهم كانت تستور وما كبا مساجد يريديس لقى حدا أيه التستور اللي حدا معقول مقولتها هذيك عبد الله ونين محيط وحقتها تستور اللي حدا ولي ما مقش عالم كان أنجل تستور ومقلي عبدولي مودي أنك مقلي عبدولي ويدي أيانا لو ذا جي ورباهنتا مركا تستور كي والله على كل حال برلمان كيبا مامور كي برلمان كاشيغي دولة ديبا اسكو راعدي تستور كي والله مركا عبدولي قاسنا هشيس وصوصي حدي تستور كي الله نقل لحانا والله محا طلع waxaa tala ee dawladdu ha kala tagto ku iyo hadda maxay ahayd بعدما dastuurka uu dhumay dastuur cusub hala sameeyo baarlamaan cusub oo new ah hala sameeyo because dastuurka baa dhumay sharciyada lagu wada shaqeyn lahaa Soomaali ku wada joogi lahayd aan dhumay Soomaa wayhay saaka
dagaal baa ka socda muqdisho wararka hor dhow isoo gaareen waxay sheegayaan ciidamadii militariga ee dowladda Soomaaliya in ay isweer ka hayaan xaruntii General Gordon isla markaana la isugu geeyay dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay oo ka helayeen waxay sheegayaan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ciidamo Imaaraadka ay tababareen oo Soomaali ah oo ku dhawaaqaya Soomaaliya nahay la leeyahay Soomaali ma tihiin hubka dhiga ugu dambeyn ciidamadii dowladda ama ciidamadii labada jarbo ciidamadii dowladda kulay ma oran karo ciidamo ajnabi ah laakiin waa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamo Imaaraadka ay tababareen oo Soomaali ah dagaalku waa u fiday xaafada kamida ayuu ku sii fiday laakiin wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamadii xoogga dalka saaka weeraray xarunta General Gordon ay u muuqdaan kuwa ka awood badinaya waqtigan oo ay isweer ka qabteen xaruntii General Gordon waxay kaloo ay ciidamadu ku guuleysteen militariga Soomaaliya inay ciidamada si hal ah hubka uga dhigaan waxa muuqanaya marka ciidamadii in awood loo adeegsanayo General kamida ciidanka xoogga dalkana saaka wuxuu ii sheegay in ay ka go'an tahay dowladda Soomaaliya haraaga Imaaraadka inay la dagaalanto adigu ma qabtaa dagaalka saaka ka socda Muqdisho inuu yahay mid sax ah maya absolutamente qof Soomaali oo qabana ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan dhageysanaynay hadaladooda oo maxay ahayd dawladdu ay ballan qaaday in ay la wareegeen ayaga dawladdu waxay dhaheen Imaaraadku way baxeen ciidankana waan la wareegnay ciidankii shalay la wareegay ee calool samida ku joogay la rabay in ay dalka u shaqeeyaan ee tababarnay ee lagu weerari karay goobaha al-shabaab ay joogaan oo xoog awood lahay maanta ilaahay awood leh waa ciidanka meesha ku jiro waa 3,000 oo ciidan ah waa ciidan maanta wax u galo dalka iyo dadka wax u galo oo tababaran in la laayana waa xaq daro waana loogu talagalay raggan saaka loo yimid hubka dhiga la yiri way diideen xilli ay ku aadan tahay koodii duhurnimada ayaa ciidan lagu soo siyaadiyay waxaana loogu talagalay go'aanka dawladda ay tahay in ciidamadaas laga dhigo mid fakado oo darbiga ka boodo mid la dilo mid qoriga laga qaado mid xabsiga la dhigo intaas loogu talagalay ciidamadaas gabiba in la baabi'iyo oo ama la dilo ama xabsi la geliyo ama mid cararo calihiisa ku fakado intaas loogu talagalay waana go'aan dawladda ay gaartay xalayaana go'aankaas lagu gaaray in lagu sameeyo sidaas ciidamadaas ku jiro waayahay dadka ku dhageysanaya waxay leeyihiin ciidamada waxay haystaan mabda ama siyaasad dawlad diidan ee dawladnimada Soomaaliya marka adigu laba jeer baan kugu celinaya adigu ma waxaad aaminsan tahay ciidamadaasi in la laayo maadaama ay wataan siyaasadda Imaaraadka oo hubka laga dhigo kii diidana la toogto mise waxaad aaminsan tahay inay yihiin ciidamo xaq u leh inay ku biiraan ciidanka dawladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay yihiin ciidamo inay ku biiraan xoogga dalka waa wiil Soomaaliyeed in wiil Soomaaliyeed oo kalena dhibaato siyaabo kala duwan oo maalin walba ku dhintaa in maanta wiil Soomaaliyeed oo ciidan ahaan u tababaran ee asagu afkiisa ka sheegaya war aniga Imaaraad ma ihi Soomaaliyaan ahay waana shaqeynaa dalka iyo dadkaan u shaqeeyaa dhahayna in la dilo ma aqoonsani mana ogoli raalina kama ihi waxaana leeyahay madaxda Soomaaliyeed ay saa u soo socoteen maanta u soo socoteen haddana ma ciidankii aad leynaysin taxriya ugu tagtiin warnimada waxaan dawlad ma ahan ilaahay umadaha ka hor wareejiyo wayahay aad iyo aad uma hasantahay fakarkaaga aad saliimka ah ileen qof kasta fakarkiisa xor ayuu u yahay waxaan leeyahay qof kasta oo doonaya inuu fakarkiisa dhiibtana wuxuu gala soo xiriiri karaa feebarka hortiina ka muuqanaya laba qodob ayaa isa saaran Cabdiwali Gaas arrimaha halis ku ah dawladda Soomaaliya ayuu la soo saxiixday Imaaraadka Carabta waxa kamid ah inuu xiriirka u jaro dawladda ay hogaamiyaan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dhanka kalena dagaal culus ayaa ka socda magaalada Muqdisho ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wuxuu dhexmaraya ciidamo ka tirsan Imaaraadka ciidamadaasi waxyaabaha lagu haysto waxa kamid ah Soomaali ma tihid waayo waxaad aaminsan tihiin fakarkii Imaaraadka ka baxay Soomaaliya aan idinku wareejiyo sargaal ka tirsan ciidamada saaka loo weeraray oo iyadoo xabadu ay ku socoto ku dhawaaqaya waxaan ahay Soomaali annagoo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka tirsan dugsiga tababarka General Gordon waxaan diyaar u nahay xoogga dalka inaan difaacno waxaan kaloo diyaar u nahay inaan shaqeeyno hadduu Imaaraad baxay annagu Imaaraad ma nihin waxaan nahay Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ama militarigii xoogga dalka Soomaaliyana saaka wuxuu yiri Imaaraadkaasi laguma aamini karo geeyiga Soomaaliya waa in laga qabtaa xabadu waa ay socotaa
waxaana imikay muuqanaya in laga awood roonaaday ciidamadii General Gordon ku sugnaa oo imaaraadku ay tababareen waxa kaloo ii muuqanaya in ciidamadaasi imika ay u muuqdaan mid hub laga dhigo iyo mid gacanta lagu dhigo nolol ahaan lagu qabto ciidanka xoogga dalka ayaa ka awood sareeya hadda dagaalka ka socda magaalada Muqdisho ciidamadii imaaraadku oo tababaray oo saaka iyagoo ku dhawaaqaya Soomaaliya ahay lagu yiri waxa tihiin xaraagii gumaystaha qadka xiga salaamu calaykum dhegeystaha fiberka ku jira halo salaamu calaykum dhegeystaha suwayo السلام ورحمة الله وبركاته. أيه سيبا دو هردان ومالينيا سودو ما هردنا قد كمود اسكجليه وأنكو جري وأنكو مقلا ولا مقرأتي. أديات سودو أدا دو ما سنتهي لما قضب يا ساك هرتي دي يلا مدوا عبدولي قاسو هشيسي الله سو قرأ إماراتك إساقو تحقلين يمد كميدا قضب بدي كجري تستور كي لحظي أو إماراتك أنا رادي هوري لو حظي سودو وشيغي قدوميها بارلمانكا وحكالو يري أفرتاسي قضب هدي يهرقلي وايان سورتقال معها إنا لسي شقيو دولة دحاء صومالية مركا قضبادي وإمارات كلا سو سيحيدا عبدولي قاسيداد واركتا walaalo waxaan u arkaa horta qodobada fiihin qodobo qaldan balwaano hadii aynu noqono dhanka Soomaalinimada balse waxaad moodaa in dawladda Soomaaliyeed ay ka indha qarsanayso xaaladaha uu ku dhaqaaqay Abduuli Gaas aysan u baqadii karin ama aysan la hadli karin ama xiriir toos ah midna ila sameey karin oo mar waliba ama oo dana qaas ah uu leeyahay inuu soo fushiyo ay noqoto uu ku hanjaro inuu dawladda xiriirka u jarayo taasina waxay ku tusinaysaa in dawladda ay diyaar u yahay inay maamul goboleedka Puntland la xisaabtanto sida maamulada kale oo la xisaabtanto balse ay ka gaabsadaan ama ay u maleeyaan inay ka baqayaan hadii ay la hadlaan oo xiriirka u jarayo sida Abduuli Gaas uu la mid yahay dawladaha kale ee dunida ee Soomaaliya jaarka la ah waayahay dadka qaar laakiin waxay aaminsan yihiin dastuurkii la xaday inay ku jirtay qodob ah in madaxweyne kasta oo maamul goboleedka kamida uu xor u yahay inuu dadkiisa u adeego marka adigu taa ma aaminsan tahay taa waxaan ka leeyahay balwan uu adeegi karaa dadkiisa laakiin ma ahayn in wax ka baxsan dawladda federaalka inuu sameyn karo oo qofka uu sameyn karo heshiis kale ama dunida ama dawladaha weyn inuu soo sameeysan karo balse laakiin wixii horumarinaya deegaankiisa dadkiisa uu sameyn karaa balse laakiin markay timaado inuu xiriir iskaashi oo sameeyo waa inuu dawladda dhexe ugu dambeeyo maadaama dawladda dhexe ay tahay dawladda kaliya ee isku haysa dhammaan maamul goboleedyada marka taa waxaan ka dhihi lahay inuu muxuu ahay Gaas kaga dambeeyo wax waliba oo xiriir ah oo sameynaya ama dadkiisa u qabto ama Soomaaliya ha u qabto balse dawladda ugu dambeeyo balse hadii uu yahay wax dadkiisa ku horumarinayo oo deegaamadiisa uu qabanayo gudaha ay tahay waa goonigeeda balse markay maad iskaashigaas oo kaleeto waxaa mudnaanta iska inuu dawladda dhexe faraha uga qaado balse dawladda dhexe hadii ay ka horiday waxaa moodaa inuu Abduuli wuxuu doono ku dhaqaaqo kale cidna ka hor istaagi karay jirin marka leedahay ay ka horiday maxay ka horiday waxay ka horiday inay la xisaabtanto maamul goboleedyada sida oo maamulka Puntland Galmudug maxuu ahay Hirshabelle sida Jubbaland balse laakiin waxaa moodaa arrimahan uu ku dhaqaaqay Abduuli hadda kaliya dhowr jeer uu sameeyay asoo ku hanjabay inuu dawladda federaalka xiriirada u jarayo hadii uu danaha asaga uu leeyahay maamulkiisa aysan fulinin ama faraha ay kala bixin waxyaabaha uu Abduuli Gaas hadda ku doodayo waxa kamida uu leeyahay waxa igu kalifeynaa imaaraadka aado dawladda Soomaaliya oo aan igala tashan markay go'aanka ka qaadanayeen imaaraadka ku muuqataa dawladda Soomaaliya inaysan kala tashan oo mudnaa in lagala tashto maadaama ciidamo loo tababarayay la maalgelinayay deegaanada Puntland okay taa waxaan ka dhihi lahay balwan hadii ay tahay inay lagala tashto kaligiis ma ahayn in maamul goboleedyada dhammaan la isku yeero lagala tashto ayay ahayd balse hadii san dhicin ma ahin Gaas inuu ku hanjabo aniga hadana la igala tashanin ma dhici karta kamid ma asaga yuusan u maleynin inuu isticmaalo sidii macnaha wadamada weyn ee ku midoobay qaramada midoobay ama golaha figliga loo yaqaan kale Russia oo kale inta oo kale waayahay maxuma bal hadduu Abduuli Gaas awood u yeesho inuu imaaraadka maalin cad Boosaaso ka dejiyo ilaan runta Soomaaliya in laga leexleexdo maaha oo ay dhacdo in annaguna aan baahino Abduuli Gaas oo dekada Boosaaso ka dejinaya saarado ay leedahay imaaraadka dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay ka duusho magaalada Muqdisho oo ay tagto dekada Boosaaso oo ay tiraahdo dekada waa in la xiraa xabsiga dhigto howlwadeennada dekada ka shaqeynaya madaxweyne Gaas u hanjabto oo ay tilaab qaado dawladda Soomaaliya awooddaasi ma leedahay
uma muuqato taas inay ku dhaqaaqayso dowladda Soomaaliya balse waxay soo dedejinaysaa taasi haddii Cabdiweli ku dhaqaaqo inuu maalin cad uu ka soo dejiyo dowladda Soomaaliya aysan tallaabo cad ka qaadin in uu wadanka yeelan doono guri walbana oo dowlad gooni yeelan doono aad arki doontid xaafad gooni leeyahay aniga ayaa madax ana maamul gooni leh marka taasi waxay ku tusinaysaa haddii aysan dowladda Soomaaliya marka hore ka hortagin oo arrintan aysan baajinin oo Cabdiweli ku dhaqaaqay in uu keeno dhammaan waxyaabaha ku taamay sida muxuu ahay imaaraadka oo kaleeto oo si cad ku soo dejiyo taasi waxay cadeyn u noqonaysaa inaysan dowladda awood buuxa u leeyahay inay xitaa la hadasho maamulka Puntland si ku hadli kartaa maamulada kale waayahay aad u mahadsantahay dagaalka Muqdisho ayaan hadda su'aal ka weydiinaya aan idinku rajiyo sargaal saakal yiri Soomaali matid oo ku dhawaaqaya ay Soomaaliya ciidanka xoog waxaan nahay Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan imaaraad baxay annagu imaaraad ma nihin waxaan nahay Soomaaliya ciidamadii sida ku dhawaaqay militariga Soomaaliya waxay yiraahdeen waa xaraagii gumeystaha waa in la dagaalamaa sideed u aragtaa dalwan taasi waa ayaan darra maanta oo la marayo 2018 ciidamada Soomaaliyeed ee ku dhawaaqay ee dhahaya waxaynu nahay Soomaaliya waxaynu diyaar u nahay inaan qaranka Soomaaliya difaacno in maanta la yiraahdo haraaga muxuu ahay imaaraadka ayaa tii la laayo ama lagu duulay xerooyinkii lagu tababarayo waa ayaan darro u soo hoyatay ciidamadii Soomaaliyeed ee xoogga dalka maanta hadaynu aragno birin waxaynu arki doonaa ciidamada Turkiga tababarayo markii Turkiga iyo dowladda xalaqaadkooda xumaada ayagoo la weerarayo la dhahayo haraagii waxaa tiin muxuu ahaayee ciidamada muxuu ahaayee yandi lahay Turkay ama wadanka Turkiga marka waa ayaan darro in maanta wiil Soomaaliyeed ee dhahay xoogga dalka ayaan ahay la weerar ee la dilo ama hubka laga dhigo taasi waxay ku tusinaysaa waxyaabaha qaladaad ay sameynayaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr waayahay aad baad u mahadsantahay aragtidaada saliimka ah laba qodob ayaa saaka horteeda yaala qodobo qaar waxa ay muujinayaan Cabdiweli Gaas hadalka uu sheegay ee ahaa in Cabdiweli Gaas uu xaq u leeyahay inuu u dagaalamo ama uu kor u qaado jiritaanka Puntland iyo waliba heshiise oo la soo saxiixday oo halis ku ah Farmaajo iyo Khayr dhanka kale dagaal baa Muqdisho ka socda waxa la dagaalamaya ciidamo imaaraadku ay tababareen oo ku dhawaaqaya Soomaaliya nahay laakiin waxa la leeyahay haraaga gumeystihii imaaraadka ayaa qayb kamida aatihiin sida darteed uma qarantiin inaad sii joogtaan hubka dhiga wararkii ugu dambeeyay daqiiqad ka hor warar ka yimid ee dhinaca dagaalka goobta uu ka socdo iyo waliba xerada ay ka guureen imaaraadka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka sababta ay saaka u weerareen ay tahay waxay yiraahdeen sanduuqii ay ku jireen hubka imaaraadka ayaa la jabsaday cidda jabsatana ma ogin ayay yiraahdeen sida darteed waxaan u imaanay militariguna u yimid inuu hubka haraaga ah ee goobta ku haray ay qaataan laakiin waa laga hor istaagay siyaabaa looga hor istaagay waxa kamida qaabka anshaxa iyo asluubta ciidamadu ay ula dhaqmeen imaaraadka ciidamada ay tababareen oo goobtaasi ku sugnaa waxa kamida inuu generaal Nuur Dheere la yiraahdo oo saraakiisha kamida ayaa wuxuu ku yiri imaaraadka ciidamada ay tababareen saaxiibayaal waxaan doonayaa ayuu yiri inaad hubka dhigtaan oo aad u hogaansanataan amarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada imaaraadka waa ay diideen waxay yiraahdeen anaguba xoogga dalka ayaan ka mid nahay waxa naloo tababarana waa Soomaalinimo sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa waxa uu yiri anigu 5 technica ayaan wataa daqiiqadna igu qaadan mayso inaan hubka idinka dhigo ama aan idin laayo hadaadan amarka qaadanina laakiin jawaabta xabad baa looga dhigay ciidamadii imaaraadka ay tababareenna way dagaalameen ugu dambeyn ciidankii xoogga dalka waxay la wareegeen inta badan goobtii dagaalku uu ka socday waxaana la ii sheegayaa xilligan in laga awood rooraaday ciidamadii imaaraadka ay tababareen hubka ciidamada xoogga dalkana uu ahaa hub aad u culus ciidamada imaaraadkana ay ku dagaalamayeen qoryaha fudfudud oo kaliya laakiin wali dagaalka lama soo afjirin sargaalka Nuur Dheere la yiraahdo ayaa weeraray goobta wuxuuna doonayay inuu ciidamadaasi u sheego inay ka mid yihiin haraaga imaaraadka isla markaana siyaasadooda aynan u cuntamin dowladda Soomaaliya yuu leeyahay nin imaaraada mase nin Soomaaliya ma nin aaminsan imaaraadka carabta waa mase waa nin aaminsan inuu yahay Soomaali sargaalka sida lagu yiri waxa uu yiri annagoo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka tirsan dugsiga tababarka General Gordon waxaan diyaar u nahay xoogga dalka inaan difaacno waxaan kala diyaar u nahay inaan shaqeeno hadduu imaaraad baxay annagu imaaraad ma nihin waxaan nahay Soomaaliya
annagu imaaraad ma nihin haddii uu General Gordon uu ka baxay imaaraadka carabtana annagu Soomaaliya nahay inta sheekadu markii marayso waxa la yiri haraagii baad ka mid tihiin ma xuma labada qodob ee miiska saaran dagaalkaasi sidoo u aragtaa iyo waliba Cabdiwali Gaas afarta heshiis oo la soo galay imaaraadka carabta in xariga loo jaro dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayri sidoo u aragtaa qadka xiga salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله walaal soo dhaw aragtidaada ku aadan afarta qodob ee heshiiska imaaraadka iyo Cabdiwali Gaas dhaxmaray sidoo u aragtaa walaal waa maqlay horta hawsha ka hadlaysid Cabdiwali Gaas hadii imaaraad oo heshiis la soo galay kulay aniga fikirka aan qabo wuxuu yahay Cabdiwali Gaas horta asagoo wali nabad raadinaya ma arag ilaa dawladii Xasan Sheekh markay jirtay asagoo nabad ka raadinaya ma arag oo nabad wada weligiis wuxuu raadinayay asagii in Cabdirashiid Baseem waaye waxay raadinayeen burburka iyo isku dirka iyo kala dirka wadanka dalka Soomaaliya gobolada si ay u kala qoqoban yihiin oo maamul goboleedyo ay u kala yihiin uu jecel inay kala ahaadaan Soomaaliya inay dawlad yeelatana ma jecla taalena kama ahan markuu xataa ra'iisul wasaaraha ahaana wuxuu u shaqeynayay imaaraad oo ayagu u shaqeynayay laakiin kullayba go'aan kasta uu gaaro Cabdiwali Gaas waxay u taalaa shacabka Puntland waxa ay ka sameeyaan xildhibaanaha ugu jira dawladda federaalka wasiirada ugu jira dawladda federaalka okay hada marka kuwii cayriyay oo imaaraadka cayriyay horta ciidamada ku tababaray lama cayrin wixii aniga aan maqlaayo aan dhageystay wixii la cayriyay waxa DP Wall oo la wadanka ka baxa hadii marka dawladda imaaraad iyo isku xiran yihiin nimanka dekadaha gadanayo aan raaliga ka ahayn in Soomaaliya dekadaheeda ay shaqeeyaan ay isku wada xiran yihiin oo ay ku bixeen go'aankaas kulay waxa waa wax fiican ilaahay khayr ha nooga dhigo wax ka khayr badan ayaga aan siiyaan leenahay Cabdiwali Gaas hadduu go'aan la soo gaaray nimanka la yiraahdo imaaraad oo uu rabo inuu wadankiisa ku gato oo uu rabo inuu shacabkiisa ku burburiyo oo uu rabo inuu dalkiisa ku gatana kulay waxay u taalaa shacabka Puntland bay u taalaa asaga wax yar baa u haray hadii lacag la soo siinayo leeyahay Puntland burburi iyo hadii lacag la soo siinayo leeyahay Soomaaliya burburi kullayba asaga ka jaran tahay waa asaga wax uu soo qaatay waa dhibaato uu soo qaatay kullayba wuxuu siinay waxa uu maanta Soomaaliya ku gadanayo oo dhiigga Soomaaliya ku gadanayo wax uu soo gadanayo waa ilmihiisa iyo reerkiisa iyo familigiisa wuxuu siinayo waayahay laakiin dadka iyo dalka haddii wax loo qabanayo imaaraadkuna ay xaq u leeyihiin inay xiriir la sameeyaan federaalka kelmadda federaalka waxaan jeclaan lahaa dadku inay aad u fahmaan federaalka qodobo ku jira dastuurka la xaday waxa kamid ah in maamul kaste uu xaq u leeyahay wuxuu ku dhaartay inuu oofiyo aad ii fahma dastuurkii Soomaaliya ee la xaday waxa ku jira qodob cadeynaya in imaaraadka in maamul goboleedyadu ay xaq u leeyihiin dadka iyo dalkoodaba in ay waxa ay u qabanayaan ay xor u noqdaan haddii marka uu professor Cabdiwali Gaas uu raacay qodobka aad ii fahma qodobkaasi ayuu raacay dastuurkii kuma xadgudbin inkastoo dastuurkii la xaday marka kadib dawladda Soomaaliya waxay jibisay hal xeer markii loo eego dastuurkii la xaday waxa kamid ah dawladdu waa federal dawlad dhexe ay matalaysaa waxa hoos yimaada maamul goboleedyadu in lagala tashto wax badan ayaa muhiim ahayd waxa kamid ah waa saxarta dawladda Soomaaliya xiriirka uma jirin imaaraad DP Wall bay u jirtay laakiin DP Wall iyo imaaraadku way israaceen oo gacmaha isqabsadeen wada hadallo ayay dawladda Soomaaliya ku baaqday dhowr jeer waxa lagu yiri 2 isbuuc kadib aan idin soo jawaabi doonaa imaaraadku hadda diyaar uma aha inuu Soomaaliya wada hadal la sameeyo laakiin dawladda Soomaaliya ma kala hadashay maamul goboleedyada arrimaha ku aadan imaaraadka ma uga tacsiyeysay wax wada hadal ma siisay oo ma tiri Cabdiwali Gaas oo ciidamada lagu tababarayay nimankiina way naga cararayaan maxaa tala ah marka Cabdiwali Gaas wuxuu tabanayaa dhowr maado oo ah anigiiba dalkii iyo dadkii u taagan haddii dawladda Soomaaliya xitaa ay u turi weysay dadka reer Puntland oo diyaar u ah noloshooda iyo waliba qaybaha ciidamada iyo dhisitaanka dawladnimo inay kor u qaadaan haddii dawladda Soomaaliya u jawaabi weyday ana u jawaabayo ana istaagaya ana qodobo u soo saxiixaya marka miyuunan xaq u lahayn Cabdiwali Gaas aragti ahaantaada inuu dadka iyo dadkiisaba uu u dagaalamo oo yiraahdo mashaariicda imaada war Muqdisho maahan meeshan Boosaaso la yiraahdaa walaalayaal ana u madax banaan laba calan ay leedahay Boosaaso calanka koowaad waa Puntland calanka labaadna waa Soomaaliya marka inta markaad isku keento maxaa ku muuqanaya walaal marka isku keentay intaas ba isku keentay horta Cabdiwali
xilligiisii baa sii dhammaanaya wuxuu carab ugu ordayana waa lacag aan raadi sida aad wax ku soo baxday mar labaad ma u malaynaya inuu siyaasad ay ka tahay iyo dan ugu haya shacabka Puntland iyo gobolada Puntland dan ugu haya inuu u aaday imaaraad oo uu leeyahay wardan baa noo hayaa mashruuciyaan noo raadinayaayo ciidamada loo tababaraya oo dan Puntland uu aaday ama uu raadinayo ma u malaynayo waxaan fiirsanayaa walaalo maalin dhaweyto hadda nimankan warbaahinta carabta ayaantii hore markay Soomaaliya go'aan ka qaadatay way taageerayeen hadda Cabdiweligaas markuu tagay meeshii la Dubayna waxay soo qaateen waa kuwana Soomaalida aan sheegaynay ayagoo tuugsi tag ah waa kuwana soo kala yaacay oo ordaya oo asaga sawirkiisana ku soo qaateen falkiisha warbaahinta waliba imaaraadka ku soo qaateen oo ay caynayaan ninka saa loo caynayay damiirkiisa wuu siin waayay inuu go'aanka dawladdu ay qaadatay uu qaato oo uu dhaho dawladeeda arrinta federaalaha dawladdaana taageersanahay waxay go'aan ay gaartana ayada ku taageersanahay haddaan tashanayna war aan tashano hadda wax meel laga tashado meesha ma joogin oo lama gaarin bixin la tashado sababtay tahay imaaraad ayaga go'aanka iska qaatay ayagaana iska guuray dawladdu ma dhihin nooga baxa wadanka nooga guura dalka nooga bax lama dhihin walaal ayagaa guuray ayagana wadanka ka baxay ninka la yiraahdo Cabdiwelina imaaraad ma yeerin asaga orday in Cabdirashiid u yeero yiraahna in dhexdhexaadinaya kaale mana u malaynay niman madaxa oo carabta ama wasiiraha aadeen ama madaxweynaha aadeen inuu la kulmaayo ama la qaabilayo ay qaabilayaan ma u malaynayo nimankii dekada BP World ba u malaynay inay qaabilaan waxa diyaaradda u soo diray in ayaga yihiin waxa uu soo watana in ayaga yihiin u malaynaya laakiin ma u malaynay dawladda imaaraad in intii Cabdiweligaas u yeertay ay leedahay kaalay adaan kaala hadleena danaha Soomaaliya iyo danaha Puntland adaan kaala hadleena waxaan dad Soomaaliya ka damacsanayna adaan kaala hadleena adigu noo saxiix go'aamadan inay ayagu dawladda imaaraad ay soo horfariisto Cabdiweli ay dhahayso ma u malaynay sababtay tahay Soomaaliland ay soo horfariisan lahayd nimankii tagay bay soo horfariisan lahayd oo ay lahaayeen ma baan arag mana naqaano waxa ay sheegaysan anaga Soomaaliya hal qoraa ka naqaana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka naqaana okay taamarka ka gudbo mid ciidamada saaka waxa tir ciidamadii waa la weeraray walaalo horta maalin dhaweyto wiilkii hadda la soo dhaafay waxaan daawanayay ninkan hello General Gordon meesha hadda aan leedahay ciidan iyo technical yar oo la soo aado oo la isku soo baabacdigo la dhaw saakad waa weerarayna haystay ma ahayn niman adig waxaan ku arkay ilaa dhowr iyo 10 cad bila haysta dhowr iyo 10 gaari oo baabuurta gaashaaman haysta adig 7 gaari oo ku ambalaasyada haysta marka maaqan meel ay wax ka qaldan yihiin hadda ciidanka aleeda waa la soo weeraro hub yar bay haysteen technical yar bay haysteen waxa soo weeray 5 cabdi bila soo weerartay iyo ciidan horta 5 cabdi bila lagu soo weerari karaa horta aniga ma u malaynay inay ahaayeen warbaahinada ayaa dib ugu noqon doonta hadwa la idmo adiga muuqaalada sawir ahaan iyo video ayaa daawan doonta adiga indhaha ku arki doona ciidamadu siday ahaayeen iyo weerarka sida u dhacay laakiin waxaan rabaa su'aashayda ku salaysan waqtigan in ciidamada la weeraro military Soomaaliya xaq ma u leeyahay may waa qalad ila waayahay in loogu yeero ciidamadaasi waa qatar Muqdisho taagan oo waa mabda ama siyaasad ama maskaxdii imaaraadka ayay kamid yihiin oo waa in la cirib tiraa ama hubka laga dhigaa ama haday damcaan inay dagaalamaan la laaya adigu taa ma aaminsan tahay maya walaal taas ma aaminsani mana ku taageerina dawladda in la weeraro ciidan sidiisa ciidan dawladeed in la weeraro dawladda ma ku taageerino ninka weerarayna waxaan leenahay hal soo qabtay laftarkiisa hebel nuur dheeraha hadda sheegaysid waxaan aaminsanahay in asaga la soo qabto asaga la weeraro laftarkiisa la weeraro sababtay tahay ciidanka waa ciidan Soomaali u baahan tahay cadow baan haya haddii xataa in case laga shakiyo oo la dhaho war ciidankan iskuma hubno meelo u baahan baa jira in la geeyo walaal oo furumaha u baahan oo cadowna balka isheeg nimankan idhaa xiran baa u baahan in lagu aadiyo ciidankan hadiiba in case laga baqayo oo la leeyahay ama Muqdisho dhexdeeda qalqal ka sameeya in laga saaray Muqdisho la dhaho ciidamada haligeeyo furumaha oo hala kala qaybiyo laakiin in la weeraro waa qalad waxaan la leeyahay ninkii weeraray ciidankaas oo meesha ku weeraray asaga laftirkiisa la soo qabto wixii qasaara oo dhacayna asaga ciidanku watii dusha laga saaro
aad baad u mahadsan tahay aragtidaada saliimka ah wararkii ugu dambeeyana waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee saaka weeraray xarunta ciidamada ay ku sugnaayeen ciidamada Imaaraadka oo ay tababareen ay weli ku howlan yihiin sida mid askarta hubka uga dhigi lahaayeen amarkani waa amar aad u weyn oo runtii kamid ah amarada sida tooska ciidamada militariga Soomaaliya oo helayaan dhinaca dawladda Soomaaliya si ay qayb weyn uga qaataan dagaalka lagu ciribtirayo ciidamada Imaaraadku ay tababareen qodob kale ayaa horteeda yaala sidoo kale Cabdiweli Gaas afar qodob ayuu Imaaraad kala soo galay sideed u aragtaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawo aragtidaada ku aadan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas waxa uu heshiisyo la soo galay Imaaraadka Carabta heshiisyadaasi waxa kamid ah kow in Imaaraadka madaxweyne Gaas ay ka taageeri doonto mar kale inuu ku guuleysto doorashada madaxweynaha Puntland waxayna dawladda Imaaraadka ballan qaaday inay lacag kasta ku bixin doonto fulinta qodobkaasi ah inuu mar labaad Cabdiweli Gaas madaxweynaha Puntland uu noqdo labo in dawladda Imaaraadka ay mashaariic ku wareejin doonto dekada Boosaaso ay qayb ka tahay markabka Muqdisho taagan Imaaraadka guraynayo inuu toos u tagi doono deegaanada Puntland dawladda federaalkana ay go'aan ka qaataan maamulka Puntland gaar ahaan Cabdiweli Gaas oo lagu yiri dawladdu hadii ku soo farageliso anagu go'aan ayaynu ka qaadanaynaa waa una ballan qaaday in dawladdu aysan soo farageli doonin Imaaraadkuna ay ka howlgeli doonaan geeyiga Puntland in dhammaan maamul goboleedyada heshiiskan uu gaarsiiyana waa la soo faray mashaariic kala duwan waxa laga bilaabi doonaa dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya waxaana laga codsaday Cabdiweli Gaas maadaama uu yahay hoggaanka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya in ay ka madax banaanaadaan dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ugu horeyn sidaad u aragtaa qodobada Cabdiweli Gaas Imaaraadka uu la soo galay adigoo waliba fakarkaaga xor u ah cid ku caburinaysana aysan jirin soo dhaw mahadsanid walaal waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha Soomaaliyeed qodobada haddii aan kala qaado oo ku bilaabo Cabdiweli Gaas arinta doorashada waa ogtahay Soomaaliya waxa wax lagu doortaa waxa waaye lacag taas wax weyn uma arko inuu Imaaraadka lacag ka raadsado si uu marlabaad ugu soo laabto doorashada haddii noqoto federaal iyo haddii noqoto maamul goboleedba waxa wax lagu doortaa lacag weeyaan tan kaleeto oo ah in Soomaaliya Imaaraadku kala qaybinayo anigu ninnaba Soomaaliya in la kala qaybiyo ma ku taageerayo tan kaleeto Cabdiweli Gaas anigu تقدر هان فكرة أيانا هاي دولة الصومالية ما أنت قاب كحوم معاملة وان كسور كجدا وحليري جذو ما تقعنا جذينا جد باوحير جذينا يمجرتين هذه أيسن قايب جامد أيسن كوجري لهن مركا أنت ملك الواقع لنا أي عبدولي بواحد من أي هبل بواحد من أي waxaa la rabaa dawladda federaalka ah iyadii baa sharciga gacanta ku haysa dadku waa walaalo inay mucaarad iyo maxaafidba inay iyada iskugu wacdo u yeerto laakiin haddii ay amar ku taagleen bilowdo dhaqaalaheeda gacanta ku haysa maamulkeeda gacanta ku haysa marka nin walba meeshii uu ma aragtay isdhihi karo meesha sax xoogaa aad wajihi karta ayuu aadayaa ma garad waayahay hadalkaaga waxaan ka dhadhaminayaa Cabdiweli Gaas inuu ku saxan yahay tilaabta uu qaaday Cabdiweli Gaas ku saxsan yahay inuu haddii dawladda federaalka oo isagoo ka mid ahaa raggii buddegayaasha ahaa tan Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisu waa ogtahay raggii qaban qaabinayay markaan ra'iisul wasaaraha ayuu ka mid ahaa hadaan khaldaneen tii hadda ahaa heshiisyadii lagu soo doortay oo mataqaana ay ku meel martay wuxuu ka mid ahaa raggii buddegayaasha marka nin bahalu isagu dhisay oo mataqaana uu ogaa bilowgeedii ilaa dhamaadkeedii inuu duminayo anigu uma arko laakiin Imaaraadkana kuma taageersani inuu mataqaana wax khalkhal u keenaya Soomaaliya uu Imaaraadka la soo saxiixdo laakiin haddana dhinaca kaleeto waa qodobka aan ku taageersanahay waxa waaye haddii dawladda federaalka wixii lagu la heshiiyey ama lagu doortay fulin weyso nin walba waxa waaye meeshuu rabiiciisan u fafsanaya sidaas aan uga bixilaa waayahay ugu dambeyn marka dadka qaarkii ayaa aaminsan qodobka Cabdiweli Gaas heshiiska Imaaraadka uu la soo galay mid lagu duminayo dawladda Soomaaliya ama cadowtinimo loogu beerayo maamulka Puntland sidoo kale dadka qaar waxay ku xamarayaan maamulka Puntland mar walba in uu caado ka dhigtay inuu xiriirka u jiro dawlad walba oo dhexe hadii la sameeyo adigu ma aaminsan tahay Puntland inay tahay meesha kaliya ee had iyo jeer dawladda dhexe ee ka shaqeyn laadahay walaal horta anigu shakhsi ahaan nin waxaan ahay Puntland ka soo jeeda marka
soomaalina waa aaminsanahay soomaali weyn laakiin maanta nidaamka ahaysana ayaa wuxuu yahay nidaam federalism ah dadka mar walba muqdisho markaas hoggaanka haya ama puntland ha u dhashaan ama meel kale ha u dhashaan waxay aaminsan yihiin dowlad dhexe oo centralist ah oo mataqaanaa awood leh marka dalkii hadda federalism waaye dowlad dhexe oo wada hagaysa ma jirto awoodii waa la qaybsaday power sharing waaye dadku waxa waaye waa kala fikir duwanaan karaan marka dowladda dhexe ayaa mar walba waxay jeceshahay inay maquuniso haddii ay puntland noqoto iyo haddii maamul goboleed kaleeta noqotaba puntlandna waxa waaye sida aad maantay dadku u dhegtaagayaan annagu soomaali mataqaanaa horumarkeeda waan jecelnahay haddaan reer puntland nahay mataqaanaa wanaaggeeda waan rabnaa sida annagu aan isku haysano ama aaminsannahay waxaan ka mid nahay dadka hormuudka ah nabadda soomaaliya inay hana qaado taageersan ama horbooda u fiirso dhinaca kaleeto marka aad fiirisid maamul goboleedyada kaleeto sida galmudug kale waa dareemaysay markii xaaf hadlay khilaafkii horeeto ku laaban meeno waxyaalaha dowladda federaalka ka sameynaysa waa ogtahay marka puntland waxa keligeed maanta mataqaanaa waan maamul aan la faragelin karin sidaa darteed ayay mataqaanaa wixii sharci ah ay dowladda tusaano uma arko marka inaan dowladda aan liidi ku nahay waayahay muqdisho dagaal baa ka socda dagaalka wuxuu u dhexeeyaa ciidamo imaaraadka ay tababareen iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kula muuqda halo dhegeyste waa ku maqlaa walaal waxaan ku yiri muqdisho dagaal baa ka socda ciidanka xoogga dalka iyo ciidamo ay tababareen imaaraadka ayuu u dhaxeeyaa sidoo dagaalkaasi kula muuqda xilligan in ciidanka xoogga dalka ay si awooda hubka uga dhigaan ciidamo imaaraadka ay tababareen walaal waa ka xumahay dagaalkaas oo ay ku dhimanayaan dhalinyaro soomaaliyeed fikirkeedu rabaan ha aaminsanaadaan laakiin taas waxay caddaynaysaa dowladda federaalka ee soomaaliya dadku waa kala arti duwanaan karaa horta walaal marka taas waxay caddaynaysaa dowladdu maantay inay ku mashquushay meeshii ay ka bilaabi lahayd ciidamada inay mataqaanaa rajisgarayso ay midayso ayay waxay ka bilowday in hadba group mataqaanaa iyadii taageersan inay group kale u adeegsato laakiin dhanka kaleeto maanta waan ka xumahay in caasimadii soomaaliya wiilal soomaaliya iskaga soo horjeedaan ay dhiig iskaga daadinayaan iyo dhimasho iyo dhaawacba aad baa uga xumahay waayahay aad baad u mahadsan tahay aragtidaada saliimka ah qof kasta aragtidiisa xor ayuu yahay markaan leeyahay waxaan kala jeedaa in aragtida qofna aan lagu caburinayn siduu u arko un baan ka dhegaystaa qadka xiga iyo dhegaystaha ku jira halo salaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhawow aragtidaada ku aadan laba qodob oo miiska saaran cabdiweli gaas oo heshiis la soo galay imaaraadka kaasi ayaad iigu hormari doontaa sideed u aragtaa heshiiska uu imaaraadka la soo galay oo qayb ka tahay inuu xiriirka u jaro xarunta villa soomaaliya والله والله waxaan u arkaa ka kor dadka bila Soomaali joogo yay xukumaan ayaka waxa laga rabaa dadka bila Soomaali jooga ma aragtay lambar 4 iyo waxay dhaafi waayeen meeshii la xaawtaako isla markaas ayay wixii magaalada Muqdisho joogay ayay gumaadeen waxay ku gumaadeen ciidan Soomaali ay dhisatay oo labadan loo dhiibtay labadan ra'yigood waxay ku shaqeynayeen matxaana nimankii yiraahdeen aniga wuxuu yiri khayre aniga farmaajo cid aan ahayn ma jirto haye de asaga farmaajo dawladnimada waa looga horeeyay waana loo dhiibay haye haye hadii waliga sabta ka horeeyay wasaaro ka ah wadankan haye intaasoo dhan Puntland qalabka ay galayso iyo wuxuu Cabdiwali Algaas sameynay marka hore meel iidi haye nin labadan nin ee wadankan maanta faraha ku haya waa ilaahay soo bariyo xal waxa maqlaayay bariyahan ka baqay doodaada hooyo Soomaaliyeed oo qaracantay oo dhayso waxa la dhumiyay maxaa tiraahdaa waxa la xaday geedki marka sharciga maaldahay dastuurka karo ma xadna dastuurka qof walba buug yaro meelaha la taagnaa hal iyo laba hadii la xaday dawuu yaalaa ila dastuurka koode oo buuday oo baa lagu ula kacsanay saasay loogu ula kacsan rabay nimankan labadan nin wadankan maanta uu gacanta u galay Soomaaliya hoogeed iyo halaageed baa u galay gacanta ma garatay aadiyad dad maanta ciidamo dhisan nolol dhisan aniga farmaajo waxa loo dhiibay ciidan dhisan oo quruxdiisa iyo dad Soomaaliyeed isku wada raba maanta dadka Soomaaliyeed waxay noqotay media in la isku taagan yahay in waxay noqotay dadka Soomaaliyeed qabiil cusub ee laga tagay maanta cid walba kaba ugu jiro ma garatay intaana waxa keenay
farmaajo hadduu dad wax u qabanayo ama wax u qabanayo gobol buu ka soo jeedaa gobolka maxaa tiraahdaa kenyaatigu duqeynayeen dhul soomaaliyeed caawa loo taagan yahay ee xataa laleeyahay war dhulkii baan waxaan samaynanaa dadka soomaaliyeed aan soo celinaynaa farmaajo aqligiisa waa siin waayey inuu yiraahdo xuduudda soomaaliya hala iigu taydiyo meesha ay ku soo gudbaysa qolada la yiraahdo kenyaatiga ayaka af yaqaano ayaka iska celin karo aniga dadkayga dawladdu wax ii qabanaysa markor halka la ii dijiraa ismaayaan geena muqdishaan keena qad dumarkiiba aqligu ku horeeya maxaa ka qaban karaa taas ka kartaa saa uga baxaya cabdiwali tuuyir ma taqaanaa adar khaniya ka fudso nimankan caawa dhahay ka kor labadan aniga nimanka dhahay ma taqaanaa aniga inay ahaan waa la tusiyro haye labadan nin cabdiwali caligaas awood soomaaliya uga baxo uu ka gooyo ma jirto haye aniga taan aaminsanahay soomaalinima ka dhisan meeshaan salaban nin oo soo istaagta caawa tiri war annaga cidaan ahaynba caalamka kama shaqayso dee labadooda ciday xukumaan ma taqaanaa goboleedyada meesha taagan ee shalay la isku waday ee maxaa soomaali ah iyo maxaa qabsanaala lahaa ba inay qaateen waa xabad ukunoo dhulka lagu dhifta dhash xabad ukunoo dhulka dhaalbaa soo aruurayso haye marka ninkaan kolka labadaa ninima yidhaahda adeer waxaa sheegaysa waxba kaama jiraan weligiisba xataa isu carabi tegin saw dhegahooda in lagu dhibciyo farmaajo iyo khayre mataqaanaa dhegahooda in lagu dhibciyo adeer waxba maahidin iga tag aniga aad ugu faraxsanahay waayahay qodobada qaarkii uu soo saxay xiriirka inuu u jaro ayaa lagu sharuudeeyay hadduu marka xiriirka u jaro dawladdu awood ma u leedahay inay tagto Garowe oo ay soo qabato qof walba oo dawladda wax u dhimaya sida ay Muqdisho ka samayso oo kale Garowe awoodo ninkaan ku taga ma lahayn ninkaan wuxuu lambar 4 u dhaafay weysan yahay koode dad Soomaaliyeed oo hub isku dhacay Garowe iska day al-shabaabka iska celiyo nin dhisano guryo laha iska daaye hadduu xoogu intaas uu qabo mataqaana mid kale wiil Soomaaliyeed niyo hal kelmada hilmaama raba wiil Soomaaliyeed ee wiil kale madaxtooyada jooga xabad ku dhuftay ee dhakhtar geeyay wali lama arkin askarta Soomaaliya waa wiil hadduu batbilka shay la aqsan jiro hadduu ay maqlaayo waxaan leeyahay habar yar hooyo eedo inta waa ku haye askarta ma istaahijid inaa hor istaagtid maxaa tirada bilo Soomaali inaa hor istaagtid ma taqaana oo ninna mukayf ku seexanayo adigoo yar hadda soo baxo urdinana qor isqarxinaysa isku ka qarxisay kala waxaan ku siinaa or jaamacadaha nimanka jooga ma arka awo kala xabad ma loo quuree inaad war waxaa tirada qolo waxay barto biilkana iga bixisa ku soo Facebook-yada Soomaalida imaanayeen biilkaygana hala iga bixiyo maxaa tiraa jaamacadaasna iyo hadeertaan iyo koowan wax baranaya waa aan ku arkay YouTube-ka oo gabar Xaliimo Yare la yiraahdo meel in la isku keenay la heshiisiinayay ninkaas inuu farmaajo iyo khayr istaahilo u ilaaliyo ma istaahilo waayahay waa ka soo noqonaynaa Cabdiwali Gaas heshiiskiisa hadduu hirgalo dawladdu waxa tiri awood uma laha sidaas sheegtana dawladdu waxa tiri xitaa qayb kamid ah Muqdisho ma tagi karto ma xuma heshiisyadan markaad eegto oo lagu maalgelinayo Puntland dawladda Soomaaliyana ay inay ka hor timaado ay u muuqato ma ku saxan yahay Cabdiwali Gaas inuu dadkiisa iyo dalkiisa u horo waqtigiisa oo maalgeliyo oo ummadda wax u qabto asagoo aan kala tashan madaxweynaha Soomaaliya kolkor dad la tashto meesha joogo kolkor nin waxay ku sheegaa dad la tashto oo la soo hor istaago oo maxaa yeelnaa la dhaho khayr iyo farmaajo dad la tashtamaya adaan ku weydiinaya ana Soomaali in la kala goy buba waa dhul fiiriya dhul buba waa dhul Soomaaliyeed Cabdiwali Gaas wuxuu madaxweyne u yahay Puntland ma garatay sadad Soomaali dadkii Soomaali isheesto oo watay khayr iyo farmaajo waxay dhan annaga labadooda waxay leeyihiin dad ka qaataan labada laba boorso ay ka watay yimaadeen ana Cabdiwali Gaas fikradiisa kuma taageersan waxaan cadeen aaw in lagu taageero cadeenayo how you fikir labada soo fikirayaan labana meesha joogto soo fikirayaan adeer waxay iskiraad oo u baahan ku korkor taas uga baxaynayo waayahay dagaalka Muqdisho ayaan u soo noqonayaa maanta Muqdisho waxa ku dagaalamaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba ciidamo Imaaraadku tababaray militariga Soomaaliyana waxay yiraahdeen haraaga waa in la soo xirxiraa oo qobka laga dhigaa ciidamada Imaaraadka adigu sideed u aragtaa waxaan u arkaa si qaldan waa nimankan iyo waalidooda war nimankan waxay qaban waayeen niyo ku sheega nimankan dalka wixii loogu talagalay way ku fashilmeen cid kastana waxay iskaga dhigeen cadow
hadduu yahay maxaa tiraa niman xafiis ka shaqeeyo nin kasta oo Soomaaliya cadowga iskaga dhigeen marka wax kala ma kala kara farmaanto isaga leeyahay wuxuu ka guuray bal Soomaaliya wuxuu tagay meesha nin London ka soo hadlayaan aan daabaxsanahay fulaynimo uu guuray fulaynimo gaadiidana ma taqaana wuu guuray oo uu guurinin wuxuu u qabanayo maxaa tiraa war ciidamada biil ma siiyo war wuxuu u qabta ma jirto aniga qoladan yaraacay imaaraad dalkeena iyo dadkeena in laga saaro way tahay wiilasha xataa siyaasadooda qaldan nimankan laakiin mar waxaad leedahay imaaraadka laga saaro marna waxaad leedahay Cabdiweli Gaas waa uu ku saxan yahay inuu amarka farmaajo diido sidee isku waafaqaya hadalkaaga isku waafaqayaan miyo ku sheegay waxa isku waafaqayaan labadan in imaaraadka laga saaro oo markasta Soomaaliya soo xircid Soomaaliya diidan ma jirto dadka ugu horeeyaan ahay adiga se waxa laga rabaa ma Soomaali waxay wada leedahay farmaajo iyo khayr ay masuul ka yihiin ma soo wax ay ka gurigooda ay kala soo baxeen intaas aan ku weydiiyay adan ku daynaya jawaabta hada idis dad Soomaaliyeed waxay wada wadaageen oo looga horeeyo looga fikrad badan yahay ala ayaa meesha taalo la isku yimid saas inta nimankan war waxay garanika ku dul ka qaba kan ku bad garanika inta loo soo socdo wax ma lagu madax jibaa inta la sheegaa in Cabdiweli Gaas wax ka taal ma aaminsan soo waxaan ku aaminsanahay war adeer farmaajo iyo khayr waxa tii ma jirto inuu leeyahay aw taas ama aaminsanahay saawado inuu carab ku tago waa ka dab waxta ninkii ugu horeeyay mid kuwa bibi oo wata ayuu la soo shiray saarab كلتر عرفت شو سوماليلاند ayaa qaadan lahayd caawa ay ku haysanayeen وهي aad u maasantahay fakarkaaga saliimka waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadatay adigoo waliba xor u ahaa aragtidaada annagana aan ka dhageysanaynay qof kasta oo Soomaali ah uu la xisaabtami karaa siyaasiga waad xifaaleyn kartaa waad tusaaleyn kartaa waadna la hadli kartaa adigoo waliba canaanan kara laakiin waxaan diidanahay barnaamijkeyguna oo diidan yahay qabiilka in la caayo mooyaane siyaasiga waa sida doonta ayaad ula dhaqmi kartaa marka la xisaabtan siyaasiga qabiilkiisa iska daawa ila qaadateen waana sharci aan isleeyahay dhageystayaasha ku cusub barnaamijka inay la fahmaan anigu waxaan ogolahay siyaasiga si alla iyo sida doonto inaad wax uga sheegto laakiin waxaan diidayaa kaliya inaad qabiilkiisa u gudubto wad mahadsantihiin Cabdiweli Gaas afar go'aan ayuu soo saaray go'aanadaasi waxay lid ku yihiin dawladda Soomaaliya sideed u aragtaa dagaalka Muqdisho sideed u aragtaa qaybta Febraayo ayaan siiraya assalaamu calaykum وعليكم السلام بالله وأكو سلامي سلام قليل وكاقا ميتالا ميدان هودا كو سومرينيا سو دو صاحب aragtidaada ku aadan Cabdiweli Gaas qodobada oo imaaraad kala soo saxiixday oo ka dhana dawladda ay hogaaminayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre niyo warta waan kaaga jawaabaya waxaan jeclaan lahaa gabagabada inaa jaaris yar isiiso si aan hawada waxyar bulshada Soomaaliyeed uga wadaago hadal wayaro wanaagsan diyaar anigu wax ma diido diyaar waay jawaabta markaan u soo laabto niyo warta maalin dhaweed mar barnaamij noocan oo barnaamijkan u dhow aad ka hadlaysay waxaan kaaga jawaabay oo aan ku sheegay Khayre iyo Farmaajo wadankan ayaga hormuud oo horboodaya haye dadkii iga horeeyay qaar kamid ah waxay ka dhawaajiyeen oo horena u jiray waxa kamid ah wax marka la sameeyay marka hore wixii waa dawlad ma ahan qoys yar oo meel degan oo haddii wax ka xumaadaan haddana dib u toosin karo haye ilaa waa dawlad loo baahan yahay wax marka la sameeyay in laga fiirso haye dastuurka wadanka iyo federalismka wadanka ka jirane wuxuu ku wada shaqeyn karaa wada tashi iyo in isla sheeri kareeyo haye horta ninka la leeyahay Farmaajo wuxuu dhinac maray dastuurkii federalismka oo dhinac maray because marka imaaraadka go'aanka laga qaadanayay gobolada iyo degmooyinka iyo cid ka soo qayb gashay iyo dadka aqoonyahanka mid uu kaga ay soo hordhigeen ma ay jirto ma garatay aad marka waxyaabaha Farmaajo uu sameeyay iyo Khayre sameeyaan way qayb ka tahay waxa Cabdiweli Gaas uu sameeyay ma garatay aad marka sideed u aragtaa qodobada uu sameeyo ma kula muuqdaan mid sax ah ma waxay kula muuqdaan mid qalad ah adigoo xor u ah jawaabtaada jawaabteeda markaan u soo laabto Cabdiweli Gaas waxa uu sameeyay waxa ka qurux badneed in uu dawladda la xisaabtamo dastuurka dhinac mareen ما أنا سجن إنه أنتوا دواختما أو شرفتي إيو كرامتي وطنك أو ملك كذا مسؤوليتنا ما وعاز ذاتك أو مثلا إيو قولنا أو معنا هذا مسؤوليته هو هاينه كل ذاتك كسو جيدو أنا قبيلة تجريني
in ay shuyuuqdii iyo waxgaradkii ay kala hadlaan qurux badnaa lahayd laakiinse waxaad moodaa xaq iyo baadil ra-iisul wasaarihii hore waddanka cabdirashiid sharmaarke cali sharmaarke iyo ninkaan la leeyahay cabdiweli gaas wax walba oo qalad iyo saxa ay sameeyaan reerihiisa iyo odayaashiisa iyo culimmaduba inay ugu sacabtumayaan xaq iyo baadil waxa uu sameeyaba taas marka waxay hoggaan u noqonaysaa qof waliba in uu degaan uu joogo mas-uuliyadna uu dadkiisa uu ka yahay marka waxaa aniga la yaabanahay dadka siyaasiyiinta ee reer muqdisho ee annagana matalo maxaa u diiday inay ayaguna inta ka fikiraan shalay waddankan imaaraada joogay magac dowladeed ku yimid Soomaaliya iyo diblomaasnimo dee marka cabduligaas baxoodani oo asagana dowladda federaalka waxay raacday u soo celiyo asagoo macnaha arahdiisa ka hadlinay hadii qalad laga galay dee taas waxay macnaha ay doqonnimo iyo aragti xumo ay ku tahay dadka aniga shakhsiyan imatalo reer muqdisho siyaasiyiinta ayaguna ha baxaan imaaraad iyo yahuudi cid walba xaafadaha ha keenaan hana maamulo hana la xisaabtamaan waayahay marka dagaal baa maanta muqdisho ka dhacay dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa ciidamo imaaraadka uu tababaray iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga marka sideed u aragtaa taas markaan kaaga jawaabo niyo horta maalin walba in cayaalkii iyo dumarkeenii iyo dadkii faamilka lagu dul dagaalo waxay iyadana qayb ka tahay mar labaad aqli darrada dadka siyaasiyiinta annaga nama talaayo ay qayb ka tahay maxaa damiirka u diiday siyaasiga aniga ima talaaya inuu ka dhiibiyo inay cayaalkeena maalin walba la argagixiyo haddaysan dhiman xitaa inay dhashaan maxay ugu ogolaadeen inay fawdo meesha xaafadaheeni ay noqoto maxay ugu ogolaadeen anigu nin reer muqdisho ahay maanta ma aan aqbalin anoo siyaasiya nin kaloo siyaasiya oo gobol kale kasoo jeedo gobol kale matalaayo inuu magaaladeeda qaso asaguna uu raaxo ku noolaado kama yeeleen wallaahi maana ka yeeleen oo billahi ana ka yeeleen dadka siyaasiyiinta annagana matalo haddii ay damiir yeela waayeen away nimankii oo uqaasha oo marka hore soo doortay nimankaan ana matalo annaga faamilahaan nooga qaybgalaa yidhi maxay u aamusan yihiin away maxay u aamusan yihiin nimanka wadaadada culummada oo diinka waddanka muqdisho joogo maxay ugu dhiididaa yihiin horta niyo cabdullaahi waxyaabo badan oo in la isweydiiyo u baahan baa meesha yaallo problemka jiro wuxuu yahay culummada gabar yaroo isqaawisay oo Facebook ama xaflado meelaha ka dhikinayso markay arkaan way qaylinayaan diintu raalli kama ahan saansan raalli kama ahan ورياي مو رالكية إن قبل إسقاوسي إن معناها دين إسرائيلية وواح صح. هيا. دين تو بحيث قبتها قبل إسقاوسي دمبي يو ديك بلادن دمبي صل لدادي يوين إلى قدرنا كسؤال يا. دت كانوا دينية كسر. وين دمبي وين عالم كوحوي قف بنا هذا نفتي صل قوي. هيا. qof bini aadan oo dhiiggiisa la daariyo qof bini aadan oo nabad ku seexan waayo qof bini aadan oo baahi ku joogi waayo qof bini aadan oo nabad ku joogi waayo la qaso wax baran waayo intaas ba culimada diinka kama hadlaan gabar yar oo isqaawisay oo Yurub joogto xaflada ka qayb iyo waxyaabahaas ku mashquulsan yihiin bal sidii kala marka wadaadadu maba arkaan baadilkan kale gabadhan isqaawisay ajarkeedii qaawan markii ay arkeen waxay u arkeen niman qooqan oo gabdhaha qaawan kaliya raadsanay inay yihiin culimo ma ahanba waayahay waanu ka gudbaynaa sheekadii culimada iyo fanaaniinta waxaan rabaa inaan u noqono dagaalka maanta waxaad tiri dagaalkaasi waa mid aanan macquul ahayn laakiin dadka qaar ayaa aaminsan ciidamadan imaaraadku ay ka tageen inay aaminsan yihiin fikradii imaaraadka ma qabtaa marka si loo tirtiro fikradii imaaraadka in ciidamadaasi laga dhigo mid xabsiga la dhiga mid la dila iyo mid hobka laga dhigo adigu ma aaminsan tahay ma aaminsan cabdullaahi waxay jaanisay si waa ku baryaa nimanka imaaraadka uu tababaray waa niman Soomaaliya ma ahan carab ma garatay iyadoo la dagaalin problem uusan dhicin ayaa waxaa la samayn karaa ninka hormuudka u ah inta loo yeero iyo dadka ciidamada hormuudka inta loo yeero shir loo qabto meeting oo discussion la sameeyo sidee ku habboon tahay ciidanka loo maamuli karo in laga tashto ma ahan wiil yar inuu iska cararo oo xaafadaha islaamka tago dadka uu maxuu ku maqoonayo war horta niyo غير إفرماجة أيقوم هرتا مؤجيين ضد وينها أفكرت عليه المكتب وحدباتها بلوان مركا هذيك أويلبا waxa adiga aad soo haysato waxaan aniga ku haysto waxa mujtamaca ku haystaan hadii aadan ogeyn macnaha mas'uuliyadda ma soconayso walaana maxaan ku haystaa
هيا شعبكم حكاية مسيين هذه بحاسوا يستا هيا وراني وحكوا يستانين أنا مسؤولية وديبتي هدول كسر بحوايله الدنيا لو شيء كراسك بحلدي كرما هنينا كم عارض أيو ما هنينا واركتو إن أنا كرنتي داي إن وضعك بربورنا ما هن معناه هذا ما فهمتي هيا وأنا فهمتها وحالي عطاي هيا شعبكم حكوا يستان شلم حكوا يستان في عن أفهم شرني ما نقصد بشيء صحافة وحي شيء سوا كمان ويسي يلا هلا يسامك تذكرنا كوذا معارضين يا مركز ولا جد هذا الله يا فرماج الله يا هي تذكي شلي كو سعبناي هي أو كوذا تاجري هي أنت معارضتك كواه أو مسؤوليتك كواه استو وهذا اللي بينا سودا ويستو أو عاد بريدو إنا بريدو نيلينو بريدو تما عيب ماهن حالتك أنت تيجي كجستو ضعيف لي ما هن يعني محما ماهن أنا ما تعدان أنا شخصية دان سقف سنو وأنا كسكت عين كرا لكن سمر كان أنت سو بالشأن معمول هايو وهواي واجد إحسن هاي وحنو جل إحسن هاي يجل علايو ما تدعني قدام بيسو أو بابا ستة تدعني جل إحسن هاي أفضل با أو على السوق أفضل با وحقصها وأقول لك نقول أنا يا وعلى السبيع يا إن بريو أون حتى هدو العقد دريرة عام بحيو هدي وعيسو جارين ما فهمتي baahan ina awood sheegato way yahay isla su'aal arintaada ku saabsan aan ku weydiinaya si ay dadka noo fahmaan aan qaybsano hadalka hadduu dagaal dhaco muqdisho ka dhaca hadduu qarax dhaco muqdisho ka dhaca hadday dawladdu ay tilaab qaadayso muqdisho ka dhacda aan jilciyo hadalka hadduu iska horimaad dhacayo muqdisho ka dhaca haddii la dhimanayo alla ka sugo ilaah baa nafta haye haddii dad ay baaba'ayaan muqdisho baaba uu ka dhaca hadday dhibaato argagixisa ay timaado muqdisho ka dhacda hadday dawladdu ay awoodeeda muujinayso muqdisho ku muujisaa kaliya muqdisho waxay leedahay xildhibaano la mid ah xildhibaanada maamul goboleedyada waxay leedahay senataro caana oo la yaqaano ganacsatay leedahay indhergaraday leedahay culimo u diin bay leedahay reer muqdisho ilaah baa balaayo u qoray ilaah baa u qoray dhimasho ilaah baa u qoray baaba ilaah baa u qoray in dawladdu mar walba ay dhoolatus ku samayso magaalada muqdisho oo kaliya waxaan rabaa marka inaan kula wadaago ilaan anigu su'aalna ummadda baan weydiiyaa jawaabta ma bixiye waxaan rabaa inaan kula wadaago su'aal ah maxaa muqdisho dagaalka kaligeed ka dhigay kow maxaa kalifay dawladdu marka ay awood samaynayso ama ay tijaabinayso awoodeeda dawladnimo inay ku tijaabiso muqdisho kaliya maxaan ka wada erga aan jilciyo mucaarad walba oo muqdisho jooga dawladdu tilaabay ka qaadaa waa weerartaa laba biri xitaa lama sugo laba maalmood waxaa ka mid ah weerarkii cabdi xasan cawaale qaybdiid oo loo arkayay inuu ku siyaasad yahay cabdiraxmaan cabdishakuur gurigii cadow cali gees oo ah nin abgaalo oo wacisla ayaa maalin cad la weeraray fridjkii iyo kuraastiisiyaa banaanka lagu tuuray waa la bahdilay cabdiraxmaan cabdishakuur baa sidaa loo galay awood dawladnimo la tusay waa la bahdilay ninkii odaga ahaa oo senator ahaa oo cabdi xasan cawaale qaybdiido xataa arrimaha dastuurka qaabilsana maalin cad la bahdilay intaa oo dhan muqdisho ka dhacayaan ninka odaga ay senator Umar Cabdirashiidna iska daa in gurigiisa la aadee xitaa awood looma laha in jawaab qura la bixiyo marka waxaan kala jeedaa taa dawladdu markay rabto dawladnimadeeda inay muujiso waxay kaliya ka hadashaa arrinta taagan ku aadan ama waxay dhoolatus ku soo bandhigtaa dhinaca dawladda Soomaaliya ayaan ka hadlayaa muqdisho kaliya marka maxaa kalifay baarlamanay leedahay maxaa kalifay culumay leedahay maxaa kalifay waxgaraday leedahay maxaa kalifay ganacsatay leedahay maxaa kalifay dhalinyaray leedahay dad aqli leedahay maxaa muqdisho u qoray dhibka intaas leeg waa bahdil waa dhimasho waa dhaawac waa dhibaato aan dhammaad lahayn waa canshuur iyada kaligeed ku eg waa arrimo aad moodo in meelaha kale dhan aysan ka dhici karin bal la wadaag dhageystayaasha muqdishay ma nabad baa haye cabdullaahi horta waxaa lalahay man sharafa nafsahu fahuwa shariif haye qofkaas carabiga aan u jilciyo man sharafa nafsahu fahuwa shariif haye qofkii nafsadiisa sharfaa waa shariif haye anagu niyow nafsadeena waan sharfi karnaa laakiinse ugu badnaan dadka reer muqdisho sidee horta ay ku kacaan way aad u culus tahay waxa maanta annaga madax nooga taagan dadkan annaga nama talo siyaasiyiinta way marka cabdi qaybdiid wax laga hadlaynaya aragto marka gurigiisa khasaare ka dhaca oo $1,000 wax leeyahay ka dhacda iyo ceeb 200,000 la siiyaa waa musaya haye عدو على جيس بقاركيس مع اللي تكتب كده حيالله ولا كلا توري قبر با الله دير ولا كلا توري تاني رجل ما مدرين ولا معناه أنا قلت سياسيين بدنا نصاص ليه وان أركاي لكن عدو على جيس اللي عقوبة هنو لوش كانوا اسمه لين وين عدل لكن مو بانتي
khayre iyo farmaajo dadka kama aqli badno nin walbo siyaasi nin walbo qabiil aan ka dhasho oo ay weeraraan cimaamad yar oo xogo wixii laga hadlayay shanu jibaar dii ka badan ay ku jirtaa loo geeyaa waa la aamusiyaa meelaha kale dadka asaguna meelaha uu ka qalqayliyaa oo hadalaa oo xogo qaladaad baa lagu sameeyay waan ka warsugayaa uu yiraahdaa ilaa nin afaxun xisho ay calaadii kale uu sii yareynayaa tan labaad niyo barabara ka jira fanaaniinta way heestaan culumadii way heestaan siyaasiyiinta way heestaan macnaha cid aan isheesanin oo Soomaaliya ma ay jirto ani marka waxaan la yaabana marka qaar aan isweydiiyaa war dadka maxaa isku diray dadka waxaa isku diray aan ku sheegayo maalinta xaqa saxda la wada raaco baadilka dadka umada laga daayo saxda iyo wanaaga iyo sharafka uu soo noqonaya dadka masaakiinta oo ka buuxo xabsiga dhexe macnaha nimanka Arsenal lagu bedelanayo oo maalin walba ninka waa la toogtaa al-shabaab waa lagu leeyahay al-shabaab lacag ay bixisaan nin walba la dabta way soo deesataa ninkana lagu bedelaa oo meesha la geeyaa ma fahamtay dadka masaakiinta oo cidna u halleerin oo darbiyada jiifa dadka lagu bedeshaa baadilkaas horta intay socoto horta wanaag la arki maayo inta qof oo wuxuu sheeganayo rasdul maayna wanaag lama arkayo aniga markaan u soo noqdo tayada guud ahaaneed oo reer Muqdisho ahaan maanta waxaan halkan kala hadlayaa haddii ay maqlayaan dadka reer Muqdisho nimanka odayaasha ah ee soo qorshay xildhibaanada wasiirada dowladda guud ahaan annaga lama talo dad kale ay la tashtaan oo ay la sheekaystaan sidaas si noo dhaanto wax nooga bedelo dadka la xisaabtamo ha noo keeneen inta ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkii fikirka dhageystaha oo kamida barnaamijyada ka baxa channelka magaciisu yahay Aftahan Video Production oo kamida channelada dhinaca YouTube-ka isla markaana baahiya barnaamijyo kala duwan waa idaacad ku hadasha af Soomaali waa idaacad la wadaagta dadweynaha fikirkooda waa idaacad fikirkaaga adigoo xor ah la hadli karto fadlan kamid noqo had iyo jeerna kusoo biir oo barnaamijyada si aysan ku seegin ka qayb qaado had iyo jeer idaacadan waxa ay xor u tahay Soomaali kasta oo af Soomaali ku hadlaya fikirkaaga lama daboolayo hal kuligiyada aan rabo inaan barnaamijka kusoo gabagabeeyo ayaan idin dul maraya fadlan dulka dhagahaaga iyo dareemahaaga isi magaalada Muqdisho waxay marti gelinaysaa dagaal aan dhamaad lahayn waxay marti gelinaysaa qarax iyo dhibaato waxay marti gelinaysaa awood dawladeed waayo awoodda dawladeed waxay ku eg tahay sida muuqata ilan wad arkaysaan oo faragelintu gobolada ka imaanaysa laakiin dhaqaaqu waa xamar oo kaliya marka xamar dhowr siyaabood baa jira dawladdu dawladtusay ku soo bandhigtaa tilaabo walbay qaadaa dawladuna waxay go'aankeedu uu noqonayaa mid markaa ku soo koomaya magaalada Muqdisho oo kaliya Muqdisho malaha xildhibaan matala Muqdisho malaha oday ka fikra Muqdisho malaha siyaasi u dhaqdhaqaaqa Muqdisho malaha qof u diirnaha sida darteed Muqdisho maxaa sababay in ay marqaati ka noqoto xildhibaan la bahdilayo senator la weerarayo iyo siyaasi aad moodo in loola dagaalamayo si lamid ah qof kasta oo dawladda Soomaaliya ama dawlad walba oo mucaarad ku ah dawladda federaalka Soomaaliya loola dagaalamayo sida darteed waxaan leeyahay reer Muqdisho alafkiinu intaabuu noqday insha Allah waxaan rajaynayaa maalin inay ka bixi doonaan qof kasta oo Soomaali ahna waxaan ku baraarujinayaa ha hiifin qof kale la hadal xildhibaankaaga ha u gafin qof kale la hadal xildhibaankaaga reer Muqdisho inta aad u gudbi lahaydeen gobol kale waxaan idinka codsanayaa inaad la xisaabtantaan oo aad u bandhigtaan xildhibaankiina markaad xildhibaankiina la hadashaan wax walba waa la xalin karayaa laakiin ninkan Muqdisho jooga ama gabadha Muqdisho joogta haday hiifto nin kale oo matalaya gobol kale micnuhu waxa ay tahay inaysan u jeedin qaladka iyaga ka dhacaya reer Muqdisho qaladka waxa idin keenay oday dhaqameedyada waxa idin keenay xildhibaanka waxa idin keenay siyaasiga idin matalaya sida darteed siyaasigaasi oo adan xaaladiisa meel saarina qof kale oo wax idin qaba karo haba yaraatay ma jirto waxaan aad uga xumahay in Muqdisho dagaalka maanta ka dhacay wiil Soomaaliyeed ku dhintay gabar Soomaaliyeed ku dhima karta waxa suurtagal ah dagaalkaasi inuu baaxad weyn u yeesho ciidamada xoogga dalka iyo kuwa imaaraadka uu tababaray ayaa dagaalka u dhaxeeya dagaalka waxa la yiri hubka dhig ayaa la yiri imaaraadkii ciidamadii ay tababareen waxaana lagu yiri sababta loola dagaalamayo wiilasha imaaraadku tababareen waxay wataan mabdii imaaraadka dawladda Soomaaliyeed dawladtuskeedu kaliya waxay ku soo bandhigtaa Muqdisho kaliya waxa kale oo cajiib ah qof kasta oo dawladda mucaaradaha hadduu Muqdisho joogo gacan dawladeedu la kulmaya dharbaaxa dawladeedu la kulmaya laakiin qofka jawhar jooga beledweyne jooga gaalkacyo jooga cadaada jooga dhuusamareeb jooga garawe jooga gaalkacyo jooga
boosaaso jooga laascaanood jooga hargeysa jooga baydhabo jooga kismaayo jooga kenya jooga awood dowladeed lama kulmayo hadduu dowladda wax ka sheego laakiin qof kasta oo muqdisho jooga waxaa qasaba inuunan dowladda haba yaraatee la xisaabtami karin waxna u sheegi karin gafka loo geysanayana uunan ka hadli karin haba yaraatee marka caasimadda muqdisho kolley ilintuunu dhiig bay maraysaa waxaan rajaynayaa maalin un inaad la mid noqon doontaan xornimada ka jirta caasimadda labaad ee dalka soomaaliya hargeysa caasimadda saddexaad ee dalka soomaaliya kismaayo caasimadda afraad ee dalka soomaaliya baydhabo waxaan rajaynayaa marka inaad la mid noqon doontaan insha allah oo qof kasta oo soomaali ah uu noqon doono qof codkiisa leh waxaan idiin ballan qaadayaa fakar walba uu dhageystu wato inuu xor u noqdo 2 saacadood ayuuna barnaamijku socdaa mar walba 2 saacadood ka faa'iideyso telefoonka kuu muuqanaya soo wac anigana waan ku soo dhaweynayaa magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan intaan barnaamij kala mid ah ku kulmi doono aniga iyo saaxiibada hawsha saaka idinla waday oo dhammaantood ay mahadsan yihiin qaybta telefoonada hagista aniga iyo saaxiibada Fiberka ku jira hagista sidoo kale laliska qaybta aan inta badan YouTube-ka iyo Facebook-ka isku xiraya oo dhageystayaashu ay labada dhinac ay naga dhageysanayeen waxaan idin leeyahay bye bye